iyo bahda saxaafadda dhamaantiin waxaad ku salaamaysaa salaamka salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaan kulli caawa barnaamijkan u fadhino dhamaantiin waynu fahamsanahay sidii shaacinta waa barnaamijkaas ay noogu martida yihiin labada dhalinyarada ah ee aqoon-yahaninta oo runtii aynu ku tuhmayno inay wuxuuna dheer yihiin aadan khadar cali iyo sheekh cabdimaalik cabdinuur labadoodu waxay ka mid yihiin dhalinyarada inta badan foolaadka ee magaaladeena inta badan jooga aqoon-yahanadana marka kulli runtii inuu ka faa'iideysano baa halkan muhiim ah oo u nimi barnaamijyadu waxay ahaayeen qaar taxana ah oo muddo xoogaa ay noo soconayay marka jimco kasta waxaan ugu talagalay maadaama weeyga inta kale dadku ay ku mashquulsan yihiin aqoontii oo inta badan classes kala duwan ay waxyaabaha inta badan lagu mashquulsan yahay waxaan ugu talagalay maalmahan oo kale ama habeenadan oo kale inaynu wax kala faa'iideysano oo wax ka baxsan yaani waxyaabaha jaamacadda lagu dhiganayay dadyoga kulba aynu ku tuhmayna inay naga hadlaan marka caawa barnaamijku ujeedkiisa guud waxay nooga warami doonaa oo inta badan si inoo guda gali doona mowduucyada inuu sidaan labada aqoon-yahaneen ka sugayno ujeedada aynu u furnayno waxa weeye wacyiga dadka baranaya wax iyo dadka kale inta badan ka faa'iideystayaasha iyo dhammaanba dadka wax bara dhammaanba qaybaha bulshada inta badan wacyigooda kor loo qaado oo runtii laga nasto dee learningkan ama waxbarashadan sidaas sequence-ga inta badan maxay u soconaysa marka aad baan idin soo dhaweynaynaa ku soo dhawaada SRC University welcome habeen kastoo jimcaana waxay noo balanayaan inuu marba barnaamij hadba kii aynu tabayno ama qofkii inta badan wax nagu dhaama aynu ka faa'iideysano hadda ka dhigo bahda hal doorka halkan inoo fadhiyaan ayagana laftigooda soo casumi doona hadda ka dhigo ugu horeeyo abwaan Chesto iyo abwaan Cirgaabo marka ayagana way ka sugi doonaa hadda ka dhigo inay la wadaagaan wixii iyaga ku jira haday tahay dhaqankii haday tahay suugaantiiba aad baan idin wada salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad buu mahadsan yahay Cabdimaalik runtii wuxuu inoo iba furay barnaamijka iyo wixii madasha aynu isugu nimi xaruntani kaliya ma aha xarun u diyaarsan in wax lagu dhigto laakiinse waa xarun aynu doonayno inay noqoto mid u fuqayo habfahanka bulshada intii aynu hagi karayno isla markaana aynu kobcin karayno aynu kobcino maadaama oo dhammaanteen jiil dhalinyaro aynu nahay yacni casrigii ugu muhiimsanaa nolosheenana aynu ku jirno inaynu isu diyaarino sidii aynu noqon lahayn dhalinyaro jawaanibta kala duwan ee nolosha ka dhisan ayaynu insha allahu tacaala ka duuli doonaa waxaan jecelahay inaan si toosa caawa qolyahayagii SRC University ama maamul ha noqoto ama macallimiin ha noqotee maadaama martidu badan tahay inaanu taagnaano iyo inaanu waxa weeye martida iska horeysiinaba waan ku qasbanahay waxaan jecelahay inaan kelmadii waxa weeye madasha aynu nimiye ugu muhiimsanayd aynu gudagalno waxaan inoo soo horeysiin doonaa Sheekh Cabdimaalik Cabdinuur oo inagala hadli doona mowduuc ku saabsan xuquuqda aadamaha waxaan jecelahay Cabdimaalik inaynu soo dhaweyno si aadan u dhageysano qodobka ugu muhiimsan waxa weeye inaynu is dhageysano oo qof waliba uu notebook-giisa yaraa intuu la soo baxadeetana wixii information is la gudbinayo insha Allah taala aynu wax ka qorano Cabdimaalik soo dhawow Bismillahir alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in ugu horeyn walaalaha barnaamijka soo qayb galay maamulka macadka SRC dhamaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan dabadeed waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu mahad celinayaa inuu inoo suuro geliyey kulanka noocan inaynu isugu nimaadno ilaahay baa mahadda iska leh mahadda ilaahay dabadeed waxaan iyagana u mahad celinayaa maamulka macadka SRC University oo runtii niman dhalinyaro ahoo magaalada muddo koobanna macad gacanta ku hayay wax badan runtii soo kordhiyay waxaan aad iyo aad ugu bogaadinayaa dadaalka aqooneed ay macadka ku hayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka abaaliyo kulley waan ka warhayaayo ragga macadka jooga waan aad baan isugu dhuun dololnaa waxaan ogahay inaanay wax badan oo maadiya inaanay ku qabin laakiin dadaal iyo waxa weeye ay ku wadaan nafurnimo ilaahay miisaanka xasanaadka u saaro mustaqbal wanaagsan oo ifayana ilaahay subxaanahu wa tacaala ha siiyo kulley waqtigu iska kooban yahay waana habeen waan soo ururin doonaa haddii ilaahay ka dhigo walow mowduucu aad u ballaaran yahay waxaan isku dayay laakiin aan soo ururiyo insha allah mowduuca waxa weeye xuquuqda aadanaha iyo islaamka aragtida kormiya waxaan u malaynayaa mowduucu waxa weeye xuquuqda aadanaha iyo islaamka waa mowduuc guda ballaaran waxaan doonayaa haddii ilaahay ka dhigo inaan caawa dhinac ka mid aan iska istaagno maadaama inaan ka wada gaadhaynin xuquuqda aadanaha iyo islaamka waxa weeye markii aan mowduuca diyaarinayay baa waxaan eegay meesha ugu badan
marka inaga xuquuqda aadanahayo aynu laga sheekaynayo ama iyadayna la joogo ama laga sheekaynayo dumarka waxa weeye focuska la saaraa marka bal waxaan shiri caawa ayada quraanan ha akhriin hadii ilaahay ku roon yahay xadiisna ha akhriin xoogaa carabida lagu yaqaan ingiliishkeena u guur hadii ilaahay ku roon yahay ka kaxee marka waaqacana joogaano waaqic kale laga yaabo in si wanaagsan loogu sawiro bal dhexgey waxaynu hadii ilaahay ka dhigo dhex tagi doonaa gabadha waxa weeye leena doonayo in leenooga dhigo modelka ama role model leenooga dhigo oo waxa weeye dumarka reer galbeedka ee la rabo in hablaha muslimaadka ah ee waxa weeye asturan ay dhowrsoon in looga dhigo waxa weeye tusaale bal waaqacay ku nool yihiin si waxa weeye balaayada kulleeyda Soomaaliga waliga wacyi wanada joogay nimcada waxaad garataa markaad balaayada og tahay oo nabadda macnaha ay leedahay ninka colaada yaqaanaba waxa weeye yaqaan marka xumaantaay waxa weeye hayaan xumaanta dhex taala bal inaynu wax kamid ah kulli ka wada gaarmanayda qudheeday inaynu isaga suurayno maxaynu uga hadlaynaa waxa weeye mowduuca waxa weeye dumarka xuquuqul insaanka waxa weeye la xidhiidha waxa jira marka la baranayo cilmiga waxa weeye adwiyada ama pharmacology-ga wax loo yaqaano cognitive behavioral therapy oo ah daweynta macrifiga ee waxa weeye dhaqaneed yani ma hadawo waxa weeye wixii la oran jiray laga qaadan jiray bahashii isoo qabta dawooyinka waxay ahayd wixii la qaadan jiray antibiotic maaha wax antibiotic oo waxa weeye ma garanaysaa la qaato waa guidelines la siiyay tawjihaad iyo jihayna la siiyo oo qofka badana dadka cilmu nafsiga iyo waxa weeye wax ku daweeya ayaa dadka siiyo oo ninka cilmu nafsiga ay dadka ma siiyo antibiotic ma siiyo laakiin wuxuu siiyaa talooyin ayuu waxa weeye bixiyaa marka muxuu leeyahay cilmiga noocaas muxuu leeyahay qofka dhaqankiisa laba heer bay soo martaa marka hore waa fikir fikirka wuxuu isku bedelaa shucuur iyo dareen ayuu isku bedelaa dareenkiiba muxuu isku bedelaa waxa weeye suluug iyo dhaqan marka si dhaqankii loo bedelo waa in fikirkii waxa weeye la bedelaa fikirkuna wuxuu bedelayaa mashaacirta qofka iyo dareenka dhaqankiisa isku bedelaya waana mid waxa weeye inoogu sugan quraankeena iyo diinteena ku sugan oo waxa weeye la inoogu sheegay ilaahay subxaanahu wa ta'aala suuratu faatir wuxuu ku leeyahay ma yaftahu illahu min rahmatin fala mumsika laha wixii ilaahay subxaanahu wa ta'aala qofka rahmad iyo naxariis u furayo cid ka celinaysa ma jirto nin sayid qutb leeyahdo culimada waaweyn ee xilliga noola kamid aha oo tafsiir fi dhilal alquran leeyahdo leh oo runtii jeel ku xidhnaa oo tafsiirka jeelka ku alifay ayaa markuu aayadan soo maray baa wuxuu yiri innahu lam yataghayyar shay'un mimma hawli walakin laqad taghayyara kullu shay'in fi hissi shay hareeraha ka jooga isma bedelin oo gidaarada la igu xidhay iyo meeshaan aan joogay iyo waxaan oo dhami waa wixii laakiin aniga sidaan u arkayay ayaan waxa weeye ma garanaysaa ayaa isbedeshay oo meeshiiba jannay noqotay oo nin kale oo isna caalima wuxuu yiri cadawgaygu muxuu igu samayn karaa hadii uu waxa weeye uu mastaafuriyana waa safar iyo dalxiis hadii uu xidhana ilaahay baan la kaliyooday hadii uu dilana waxaan helay shahaado shahiid baan noqday wax igu samayn karaa ma jirto marka calashaan saddexdii shay ciqaab weeye laakiin isagu sidoo arkayay ayuu waxa weeye bedelay marka waxaan doonaynaa caawa insha Allah dhaqano badan oo jira oo laga yaabo in de waaqaca keenaya waaqac uu keenay bal sidaynu arkayno inaynu wax ka bedelno waxaynu tagaynaa qarnigii 19aad Yurub baynu dhex istaagaynaa gaar ahaan Britain ama waxa weeye Ingiriiska waxaynu dhex tagaynaa meel waxa weeye lagu suuq wax lagu iibinayo tanin baynu wuxuu iibinayo eegaynaa ninkaas wuxuu iibinayaa gabadhiisa wuxuu soo istaajiyay suuqii gabadhiisa wax la yiraahdo wife selling ama xaasas iibinta haddaad imka ku qorto mawqac history wife selling oo daa wax ka baadhaan bisabahalada TikTok waxa weeye laga isticmaalaa TikTok laga eega wife selling haddaad ku qorto history waxa ku soo baxaya dumar badan oo xaasas ah oo waxa weeye la iibinayo bal waxay ku leeyihiin ninku inuu gabadhiisa iibiyo iyo inuu furo wax sahlan inuu iibiyo oo dhaqaale ka helayaaba waa Mr Dakhli waa meel dhaqaale laga sameeyo uu iibinaya deymihiisu iskaga bixinaya gabadha ninkeeda waxa weeye la dagaalanta ama xoogaa ay sir fahmi waayaan oo waxa weeye naagin woman ama gabadha isku taagta ninka isku taagta
cuquubaadkii la kulmaysay ee ay la kulmaysay waxaa ka mid ah wax la yidhaahdo lijaama ta'niib ama school bridal in waxa weeye xakame qolfoof waxa weeye tan dagaalka laga gashaday qofku uu isticmaalo inuu wax ka ilaaliso oo kale oo carabka waxa weeye ma garanaysaa labada carabe daanka iyo carabka sidaa u kala qabanaysa oo maanta oo dhan waxa weeye ma garanaysaa isa ahaanayso iyo dhammaan noocyo waxa weeye ma garanaysaa dulmiyo badan oo gabadhu ay wax weey la kulmaysay wax xilliga jiray gabadhu iyay u eeranaysaa gabadha noocaasi diintiiba u eeratay bal waxaan eegnaa gabadha nooca lagu sameeyay diintiiba u eeratay diintoodii dawaa calashanaha diinteena maaha waa diintoodii munxarifka ahayd ee kristanka ee christianity-ga marka waxay ogaatay in diintaba waxa ugu qoran inay iyadu tahay mushkiladda basharka oo dhan inay tahay tii intay laano xawaabi ka soo jeedaa xaweyna waa tuma waa tii intay luntay nabi aadan lumisay marka bil aadanka oo dhan baa loo haystaa iyada lumisay bil aadanka oo dhan baa loo haystaa iyada lumisay saas ogeed rabbigu wuxuu ku ciqaabayaa baa kitaabkooda ku taala inay dhasho oo wax way uur yeelato oo wax way magaranaysaa uu ninku madax u noqdo oo ninku nin u noqdo calashaan magaranaysaa salaam socaniyada la qabo iyada in loo abuuray ninka oo kaliya shaqada loo abuuray gabadha inay tahay nin loo abuuray oo aan ninka iyada loo abuurin baa waxa weeye kitaabka ay ka heshay diinta marka gabadhii waxay aragtay diintii inaanay dee u samaynaynin cadaalad u samaynaynin markaasaa waxa la taagay waxa weeye magaranaysaa halku dhagiyada xurriyadda iyo sinaanta iyo waxaas halkaas baa waxa ka bilaabmay oo qarnigii 19aad ah kacaanka loo yaqaano woman liberation ama thawra tahriir ilmar'a kacdoonkii xoreynta dumarka iyadoo waxa weeye ay hagayso aan diini hagaynin bashar baa hagaya waxa ku lamaana kacdoonka dhaqdhaqaaqa loo yaqaano feminismka ama waxa weeye dadka dumarnimada oo maxay leeyihiin kuwa dumarnimadu waxa ninku lama aamini karo ninka lama aamino ninka weynaad u noqotaa waxa weeye ma garanaysaa dhig oo weynaad dhig u noqotaa cid aad wax u huraysa oo aan waxa weeye hablaha jinsigaaga ahayn ma jirto ninna inaad wax u hurto oo aad la saamaxdo oo la saayirto ma istaahilo gabdhaha adiga kula jinsigaaga baad waxa weeye ma garanaysaa u tanaasuleysa cid kugu waxa weeye leh awoodina ma jirto walaa aabe walaa nin walaa mid dhashay waxba cid awood kuma laha naftaada inaad waxa weeye ma garanaysaa aad wax ku bixiso adigu aad shaqaysato xoolo samayso ayaa ixtiraamka ku haysa calashaan xoolahaad haysato ayaa ixtiraamka ku haya يعني gabadhii qiimaheedii waxay noqotay qiimo maadiye gabadh kasta waxay la qiimo noqotay maxay inta ay hanti haysato gabadhii waxa la yiri qiimahaaga muxuu ku xidhan yahay inta hanti haysato marka sida loo kala hanti badan yahay ayaa waxa weeye loo kala qiimo badan yahay idan hadii dumarkii la yiri dhaqaale raadiya caruurtii waxa weeye ma garanaysaa yaa hagaya oo yaa tarbiyadeynaya gabadhii hadii la yiri ninkii la sinno guriga soo burburi maayo ereyada nimanka aan sheegin la gabadhu ninka yaan la aaminin lacag hala sameeysto gabadhu ixtiraamkeed aniga qodaydu markaan mowduuc diyaarinay waxaan moodayay in aanay Soomaalida ka dhaxlici karin oo gabadh sidaan u hadlaysa inaan Soomaaliya laga heli karin laakiin bal la yaabadu way kala yaabsan baan filayaa inuu yahay waashidii waxa dhacday anigoo saaka markaan jimciyo diyaar garoobay baa hada jeer waxa jecelahay inaan marka aan hawl qabsanayo inaan wax ku dul dhageysto ama aan wax aan ku dul daawado marka mobilkan shiday dadka warar bay ka soo horbaxay hoon kibel war bari hore laga sii daayay bay ka soo horbaxay islaanka dhaxadlaysa oo le adiga ilanta wariyaha bil hadlaysa adigu imanka lacag soo $1 ma hadaad $1 haysto $1 baad la qiimataa hadaad $1 haysto $1 baad la qiimataa habluha soo baxaan fariidnimadii guryaha la fadhiyaan fariidnimada dawladda la yimaadaan marka intii aan imanka halkan ku qorayaan ma garanaysaa Allah musta'aan ku diyaarinayay baan ugu tagay waxa weeye iyadoo halkan waaqac ka jirta gabadhii mar haddaan nidhi ninkii hala sinaato oo waxa weeye ma garanaysaa qiimaheedu qiimaha maadiga ha noqdaan oo waxa lagu ixtiraamaya qiimo maadi ha noqoto soo qoyskii ma burburin oo caruurtii ma dayacmin ma ka daayay nimanka waxaan ku shaqaystaa caruurta iyo guriga iyo waxaas waa waxa ay nagu dageen waxa weeye ma garanaysaa waxa weeye rag nagu dageen gabadh la yiraahdo Helen Solicher oo gabadh Mareykan ah oo dadka feministiga ah baa maxay tiri waxay tiri laqad rawaja calayna rijaalu fikrata zawaaj waxa weeye sponsor gareeyay fikradan guurka ragga ay sponsor gareeyo aad u faafiyay maxay doonayaan waxa weeye inay dumar ka faa'iideystaan waxaan ognahay iminka way tiri waxaan ogaanay in guurku uu sababta dumarku ay fashilmeen uu yahay waa inay u shaqeynaa sidii guurka u burburin lahayn guurka in la burburiyaana waa shardi asaasi ah gabadha xoreynteeda waa waxa weeye shardi lama huraana gabadha nooca waxa weeye ma garanaysaa lagu koriyay
in dumar ragga lagu abuuray ruuxooda cadaawada ma garanaysa Allah musta'aan in raggu cadow yihiin oo ragga aan la aamin karin oo raggu bahal yihiin oo in la iska dhiciyo ay tahay waxa ka faa'iideystay adoo firsayadu waxay doonaysaa xurriyad sinaanshiyo waxa way ma garanaysaa in xuquuqdooda raadsato laakiin waxa ka faa'iideystay laba qolo siyaasiyiin oo dadka waxa weeye wax maamulo ah iyo qolo ganacsato raasamaaliyiin oo hanti goosad ah oo iyagu wax walba ka sameeyo maado qof baa dhimanaya iyagu waxay u baahan yihiin xoolo u baahan yihiin ama ha dhinto ama waxa weeye ma garanaysaa xoolo u baahan yihiin labada qolo ka faa'iideystay bal siday uga faa'iideysteen aynu waxa weeye eegno waana waxa qiratay in laga faa'iideystay waxa weeye gabadh la yiraahdo kamid dadka feministka u doodi jiray oo markii dambe waxa weeye ma garanaysaa ka soo noqotay ayaa qiratay waxa la yiraahdaa Nancy Fraser baa la yiraahdaa wargeyskan la yiraahdo waxa weeye Guardian ee Britain Ingiriis ka soo baxa ayay ku qortay ciwaan ay uga dhigtay kayfa taxawalat an-nisawiyatu ila khadimatin fi yadi ar-ra'samaaliyya siday dumarnimadii isugu bedeshay gacan ay ku shaqaystaan dadka hanti goosadka ah oo waxay tiri waxa weeye deewaana laga faa'iideystay oo qirashadeeda xagga dambe ugu tagi doonaa gabadh kale iyaduna caan oo dadka waxa weeye ma garanaysaa in kamida u dhaqdhaqaaqa active-ka u ah feministka oo leehdo Golaris Steinem oo iyaduna Mareykanka waxay tiri waxaan ka qaatay lacag si ayada Mareykanka si nashaadkayga iyo activity-gayga aanu kordhiyo waxa lagu yiri waad socotaa gudbaa tahay lacagtan qaado wad ayagu waxay uga dan leeyihiin way soo socotaa maxay ka faa'iidayaan iyagu gabadhaas Golaris Steinem leehda waxay soo saartaa waxa weeye hada lacag baa la soo siiyay Soomaaliya arkeed waxay soo saartaa magazine leehdo MS magazine oo ay ugu ololeyso fikradda ah super woman gabadha waxa weeye ma garanaysaa awoodda leh super woman-ka ah waxaanay madax ka tahay unitka independent research-ka ama waxa weeye wax ma garanaysaa cilmi baadhista madaxa bannaan cilmi baadhis madax bannaan oo ku qoran tahay si ayada Mareykankana lacag bay ka soo qaadatay waa waxa weeye ma garanaysaa waxay la rabaa in dadka la khaldo laakiin gadaal waxa dad baa ka riixaya maxay uga faa'iideysteen dadkan in leenahay way ka faa'iideysteen dumarkii siday uga faa'iideysteen afar nooc ama afar qaab ayay uga faa'iideysteen kow dumarkii markii la yiri waxa weeye ma garanaysaa soo shaqo taga oo rag mas'uulka ma aha ninna isku hadlaynin aabahana ha ahaadee gabadhii waxay noqotay inay shaqayso shaqadii dawladdu waxay ka helaysaa iminka dumar badan isoo guryaha ma joogaan oo shaqeynay cashuur ma soo saaraan marka dawladdu waxay u noqotay mister cashuureed dumar badan oo cashuur laga qaadi jirin iyo meel badan oo cashuur laga heli jirin waxay noqotay in cashuur waxa weey ma garanaysaa laga helo waxayna kaloo keentay in shaqadii ay isku eriyaan oo waxa weey waxa la yiraahdo camaala ma garanay Ingiriis waxay ku noqonaysaa camaala yaani waa shaqo yar neighbor baa leedahay ha labor sama way labor waa dal shukriya labor hadoo fiirso labor waa shaqo dad yar u baahan oo dad badan waxay isugu yimaadaan marka suuqiina way ku soo bateen oo rag shaqeyn jiray bay dib waxa weeye kaga soo biireeno shaqadii baaba waxa weeye maalay yani noqotay oo shaqo jaban baa shaqadii baa jabnaatay oo halka waxay uga faa'iideysteen cashuurta laba waxay uga faa'iideysteen oo kale gabadhii wax la yiri ilaa ma garanaysaa salaam musta'aan qiimahaagu waa inta aad xoolo haysato weeye waa inta aad soo jiidasho leedahay gabadhii waxa loo sameystay coverro ma garanaysaa salaam musta'aan waxay gabadh isqurxi intay hesho maxay ku shoobin karaysaa 300 bay qaadanaysaa 300 waxay ku bixinaysaa shoobin ilaa gabadhu taagan inay maartay Allah musta'aan ay dadka qancisay taasina waxay ku shubmaysaa maslaxada ra'samaaliyadda iyagu waxay u baahan yihiin lacag gabadhii waxa weeye wala qadaayaadkeeda iyo arrimahooda waa la dhigrinaya lacag baa la siinaya oo la leeyahay leeyahay gabadhii marka ma halkan ka hadlaysaa halkan ay kula shiraysaa qaar gabadhii inay hagaajisaa waa loo baahan yahay maartay shoobinkeedu uu ka badanayaa dadka caadiga ah marka halkaas dhaqaale ku jira saddex waxay uga faa'iideysteen inay dawladdu siyaasadaha kala qoqobka waxa jirta qaanuun leeyahay deferred rule inaad qaybiso xukunto dadka uma talin kartid ilaa aad midalan waxa weeye door xasan iyo aadan baan u yeedhay waynan kala qaybiyo ma maamuli kar hadaan mid bagaar u la faqin kun adigu sidana tahay adiguna sidana tahay kale way heshiinayaan marka bulshadu si ay dawladdu u maamusho waa inay tiraahdaa dumarkii waa lagu soo duulay xeerariyada u adeegay sameynaysa raggiiba wax weey ma garanaysaa salaam musta'aan dulmi sameeyay xeerar ragga uga adeegay sameeysanaysa marka dawladdu way ka faa'iideystay ma aragtaa feministkii ka faa'iideysatay oo waxa weey qaabayadu doonaysa inay uga shaqeyso halka la rabay in dawladda lagu waxa weey cadaadiyo lagu bushkareeyo hantidan ay waxa weey hanti goosadka hantida adduunka oo dhan saaran hantida adduunka oo dhan taala boqolkiiba halba iska leh
waxa weeye ma garanaysaa haafkeed bal suuraysta 7 bilyan lacagta dhex taala in qoys kaliya ay haaf yeeshaan qoys kaliya ba haaf leh lacagta adduunka taalo dhan dad meesha waxa weeye waan wada rahmanahay waan iska shaqeynaa mooyee lacagta cid kale inuu shaqeynaa waxay kale uga faa'iideysteen inay waxa weeye ma garanaysaa ay caruurtii inay waxa weeye baabiyaan in caruurtii baabiyaan oo qoyskii marka aabihii odayga la isbiru eriyay haysta caruurtii way baabaaysaa caruurtii meesha ka baxaysaa dawladda maslaxad baa ugu jirta marka dawladda waxay ugu jirta inay hesho caruur yar yar oo ma garanaysaa Allah musta'an wax ku sheeg wax ku shubto iminka maxay ugu haysaa dabada loo wada jira dadka waa ka war haysaan waxa loo leeyahay qof yar baa caruurtii laga qaaday maxay iyaga maxaa dan ay ugu jirta in caruurta ka qaadaan ila culays baa caruurtu hayay ku haysaa leena waxay rabaan dad ayagu ay tarbiyadeeyeen oo ayagu ma garanaysaa Allah musta'an ay program gareeyeen inay soo saaraan marka halkaan uga faa'iideysteen waxay yiraahdeen wixii loo oran jiray the nuclear waxa weeye family waan burburinay caa'iladii nawiga ahayd ee nuclear-ka ahayd ee aan la kala furfuri jirin waan dhalaalinay waan kala furfurinay leeno gabadhiina waxaan ku niri cid madax kuma noqon karto ninkiina waanu waxa weeye gaarkiisa isagana mas'uuliyadiisa uga soo bixi waayay sidaas caruurtii lagu furfuray iyaga qudhooda dumarkan u dooda feministka iyo dumarnimada u doona ayaa waxa weeye ku doodaya in caruurta yar yar si hadhow toole ay u soo baxaan rag iyo hablo aaminsan in raguna rag aan in hablaha wax ku darsan habluuna aan rag waxba ku darsanin waa in laga keenaa bay dhahay guryaha in wax ku awaabeen waa in laga daayaa waa in si mujtamaciyo bulsheed waa in dawladdu awaabisaa gabadh Mary Bain leeyahay oo iyaduna feminist ah baa waxay leedahay si aynu caruurteena ugu beerno kala duwanaanshaha labada jinsi waa inaynu ka fogeynaa guryaha iyo qoysaska wayna ka fogeynaa waynaynu kala furfurnaa waxa weeye ma garanaysaa qoysaska taas waxay ku keentay marka in caruur badan oo darbijiifa in waxa weeye la helo iga raaliyaha hadda ka yar fogaado aan codkayga maqal weydaan waxay ka taasi keentay in caruur badan oo darbijiifa la helo oo waliba ma garanaysaa Allah musta'an arqaam iyo tiro numbers aanad waxa weeye la sawiran karin mesela Mareykanka oo kale 2 milyan iyo bad caruura oo darbijiifa in la helo 2000 iyo waxa weeye ma garanaysaa 15 2015 dhawaa 2 milyan iyo bad caruur oo darbijiifa Soomaaliland dhan ma 3 milyan bal Soomaaliland dhan waxa weeye ma garanaysaa darbijiifa ka waran Soomaaliland dhan darbijiifa la guriga waa la burburiyay caruurtii odayga iyo islaanta waa la isku diray waxa la yiri nin walba gaarkaaga waxa weeye madax u tahay dabadeed waxa ka dhashay in ay waxa weeye caruurtii burburaan bale wasaaraddan leeyahay wasaaradda cadaalada Ameerikada oo wasaaradda cadaaladda Mareykanka qismi dhan iyo qayb dhan section dhan oo waxay leedahay children or run away youth caruurta bilaahoyga ah ee ka yaacday guryihii ama uga yaacday in aabahood iyo hooyadood kala tageen oo ay isku soo noqon waayeen ama in gurigii laga soo eriyay ama waxa weeye mushkilad problem uu jiro caruurta noocaasa inay waxa weeye ma garanaysaa caruurtii markaa maxaa ku faafay mukhadaraadkii xanuunadii nafsiga ahaa ayagii baa maaragtay ihaano iyo la kulmay bale waxa looga faa'iideystay si jinsiya oo caruurtii reed waa la iibsaday habli yaraan waa la iibsaday inamada yaraan waa la iibsaday oo si jinsiya looga faa'iideystay iyagoo lagu bedelanayo maxay hooy baan ku siinaynaayee waxa weeye ma garanaysaa annaga noo rahmantahay bal waxaynu eegaynaa marka inaynu tirakoobiyo iyo statisticska bal wadciga iyo nolosha ay ku nool yihiin gabadha noocaas ay ku nooshahay aynu waxa weeye eegno leeno gabadhii waxa la yiri xurriyad raadi cadaalad raadi sinaansho raadi bal xurriyadii iyo cadaaladii iyo sinaashii waaqaca ma ka jiraan mise kama jiraan aan eegno waxa jirta waxa weeye daahira ama muuqaal ah hablaha yar yar waxa weeye la tuuray hablaha yar yar la tuuray mesela inaba waxa jirta jaamacadda inay dhigato jaamacadda inay dhigato waa wax weeye ma garanaysaa Allah musta'an في وضع تصور بصوت وصورة صور يفيدوي نين أضيق ما ركت الله مستعان كون يجي شيء وأنا نقطع وضي أولا ما هي جورك محا يسوي خرج كريني جورك وإحنا هلا يهبلا يريرو الصوت هوري وأنا خرج شعات كبحيو مركانو أسيد ديكور أكله ديكور كله يغني سما سيد ديكور كجورك إسكال قروح حسده أو سيد قاري كلام سكال سوق حسده وشيء جميل أبو كله وقروح بدن تاي مركا قبل يرجورك هذا حوي إسكال كنسته مركا على شان حلول رقم يد haweenkii waxay ula dhaqmayaan maxay inay yihiin aalad inay tool tahay object inay shay tahay oo aan insaan ahayn bashar ah waxa la weydiiyay waxa la sameeyay research iyo baxthi baa la sameeyay Mareykanka waxa la weydiiyay dumarka maxaa ku doorataan raggana maxaa ku doorataan
bal hadda u fiirsada waa mujtamac maraykanka waa waxa weeye research waxa weeye cusub waxa leeyahay maxaa ragga ku doorataan dumarkana maxaa ku doorataan waxay yiraahdeen ragga waxaan ku dooranaa amaanadii akhlaaqda ninku si uu nin wanaagsan u noqdo waa inuu amaano leeyahay akhlaaqna leeyahay dumarkii maxaan ku dooranaa waxa la yiraahdaa physical attractiveness يعني الجاذبية الجنسية وين تقبضوا كسوة شيء نساء يوم قرن إن الله مستعان أي تهدينا ما عرفت كسوة شيء نساء هذا والله ما شيء كره وين ما عرفت يا وعلشان بالشديد لما وحي هذا قبضي وحي واركان ننكي وحي هذين أمانة خلاق ما كنت ورنا قبضي نم حي ليهين وين يسوي شيء شل هذا مركان مجتمع لما محو قبض واركا إنه يسوي شيء شل بل سوي شيء وحي كو كانتي إنه حوي أجنو سوي شيء وحي كو كانتي gabadhii in waxa weeye ma garanaysaa Allah musta'aan in la iibiyo oo ma garanaysaa Allah musta'aan si jinsi ahaan loo iibiyo in la maaragtay Allah musta'aan qashqasho suuqa dhexdiisa ama meelaha shaqada ama meelaha waxbarashada bal meel u nabad gashay ma jirto waxay bilaabanaa tirkoobiyadii waxay ku leeyihiin qoliyahan la yiraahdo wakaalada al-ittihad al-Arabi oo Yurub ah 2014 dhawaa baxsi ay sameeyeen waxay yiraahdeen oo ciwaan ay uga dhigeen violence against women every day and everywhere taadiga iyo cunfiga ka dhanka dumarku maalin walba u dhacaa meel kastana ka dhacaa maalin walbana u dhacaa meel kastana ka dhacaa qoliyahan United Nationsku 2018kii waxay ciwaan waxa weeye uga dhigeen baxthi ay sameeyeen waxay dhaheen dumarka ugu badan ee Mareykanka jooga waxay la kulmeen waxa weeye ma garanaysaa qaab kamid ah qaababka ku taadiga jinsiga iyadoo wadada maraysaa mid ku boodaya mid baa maartay la musta'aan iska iyadoo gaari saaran iyadoo shaqo ku jirta yani waxay ku leeyihiin 90% ama 80% dumarka jooga waxay la kulmeen waxa weeye ma garanaysaa taadi jinsi bay la kulmeen waxa taa daliil kuwa ninkii iminka laga qaaday xilka Donald Trump la oran jiray 19 dumar loo haystay 19 dumar ayaa mid walba inta TV-ga soo firtay anigana bari waxa weeye uu 90kii meelahaas suuq dhexdiisa ku dhunkaday dhunkashaan raalli laga hayndee ilaa waxa la gabadhii waa soo jiidasho moogta uu isaga tagayaa uu iska khasbaya uu iska dhunkanaya waxay isugu imanayaan meelahan yar yar ee ma garanaysaa salaam saan tabaqada loo raaco uu iska qabsanaya ilaa waxa la wax ka celinaya ma jiraan wax maartay qiimo iyo wax akhlaaq uu leeyahay ma jirto waa waxa la yiri dumarka maxaad ku qiimaysaa yiri si ay soo kala jiidasho badan yihiin baan waxa way ku qiimeeyaa Francisca wasaaradda xuquuqda iyo dumarku waxay tiri boqolkiiba boqol hadaba fiirsa waa Francisca waa meesha aynu imika wada sugayno fiisaheeda boqolkiiba boqol dumarka jooga Francisco way la kulmeen waxa weeye ma garanaysaa taadiga jinsiga ha kala duwanaato mid ha loo yaraysto mid ha loo badaysto mid waxa weeye ha loo badiyo laakiin mid waliba way la kulantay isku day jinsi way la kulantay waa boqolkiiba boqol dumarka waxa weeye jooga Mareykanka waxay ku leeyihiin ardayda hablaha jaamacaadka dhigta saddexdii habloodba inanba waxa weeye la isku dayay oo waxa weeye isku day kaliya ma aha niyadaade waa mid khasaba oo ma garanaysaa salaam ta'ala ma qabqabsasho ama wax kale ah Mareykanka waxay ku leeyihiin hablaha caafimaadka dhigta haaf kamidi ayaguna way la kulmeen waxa Ingiriiska 2019kii waxay ku leeyihiin Ingiriiska way isaguna waa Mareykanka ama Ingiriiska 2019kii dhawaa haaf kamida hablaha waxa weeye Ingiriisku waxay la kulmeen istifzaazaad jinsiya arin jinsiya yani waxa weeye ma garanaysaa khasbid jinsiya bay la kulmeen haaf kamida hablaha Ingiriiska oo dhan sida lagu nashriyo waxa weeye The Guardian majalladan caanka ah The Guardian Britain ka soo baxda meelahaas waa meelihii basaska iyo meelihii waxbarashada waxa weeye ma garanaysaa wax laga baranayay bal meelihii shaqada aan eegno BBC-du 2002 waxay sameysay tirakoob waxay tiri afartii waxa weeye ma garanaysaa hablood ee shaqo ku jiraba mid baa waxa weeye xafiiska ma garanaysaa Allah musta'aan faaxishadii xumaantii lagu la sameeyay waa afartii dumar ee kasta mid baa ma garanaysaa Allah musta'aan lagu la sameeyay mawqac la yiraahdo ama website ka la yiraahdo Safeline Ingiriiska oo had iyo jeer daneeya dumarka la kulmay isku dayada jinsiga la kulmay wuxuu ku leeyahay haaf kamid ah Ingiriiska dumarka shaqeeya waxay la kulmeen isku day jinsiga ama kii maamulayay baa ku dayay ama mid kale awood ku leh ayaa wax ma garanaysaa Allah musta'aan ku dayay waxa jirtay maalin dhaweyd waxa qariibsanin Ingiriiska dadka oo meeshaas lagu baay maxay ahayd noocaasi halkan Hargeysa nin dhalinyaro ah oo Ismaaciil wax leeyado baa wuxuu ka diyaariyay waxa weeye ma garanaysaa in la socoteen in kala ma aqaani wasaaradda arrimaha gudaha ee maartay Allah musta'aan Soomaaliya ina ka shaqeysa oo mala wax haysata ayaa kii ka shaqeynayay
ee uga sareeyay baa u soo bandhigayeen hadaa shaqada waan ka yariyo hadii kale markaasuu waliba xumaantii ka duubay markaasuu ugu hanjabay waliba uu hadaan sidaas sameeynin bahalkaas aan maartay aan publish gareynaya waa wax maartay oo waxaan la noolnahay inuu soo gaaray ma xataa wax naga fog oo tusaalayaashooda naga fog yihiin cilmi baaris kale oo lagu sameeyay waxa weeye Mareykanka waxay yiraahdeen meelaha shaqada hablaha la isku dayay waa 150 waa wax aad u sareeya 150 yani haaf iyo siyaado weey waa haaf iyo siyaado waxay ku leeyihiin ta ka sii daran 70 hablaha nursing ah ee ka shaqeeya waxa weeye dhakhtaradii soo nursing dadka loogu ixtiraamka badan yahay maaha nursing dadka ahi ama saaxiibadooda shaqada isku dayay ama kuwa u shaqeynayeen ayaa isku dayay kii beeshiga ayaa waxa weeye ma garanaysaa Allah musta'an kii loo shaqeynayay ayaa waxa la yimi waaya badoo fiirso badoo fiirso waxa dhacday Mareykanka qiso ka sii darantaas oo waa maxay waxay yaadeen Mareykanka hablihii ka shaqeynayay meelaha waxa weeye hoteliska iyo meelahaas ayaa wuxuu ka dalbaday ninkii waxa weeye joogay hoteliska lahaa wuxuu yiraahday shaqaalaha noocan hoos wala bisanina علشان الصودين لو وحي واحد ربعين لسوق يستو كاستمريس كأي نوع عاوز ولا بيست تتدمر بدن باك قيلي مركزين مظاهرات دجين مظاهرات كواحد هالكديكو كدجين أنا لست ضمن قائمة الطعام I'm not the least of the food يعني أنا وكمد ما هي واحد لعونه يدي تذكر واحد لعونه يا وقار أنا لعونه ما هي أنا واش قيسنا واحد لعونه يا ده هيسكوك هاي دارينا يعني waxay martaa على shaqo qofka ku yiraahdo si aan waxaygan u gato yani aalad weeye wala ma dhaqmayo maxay inay bashar tahay wuxuu haystay inay aalad tahay hada kama hadlayno waxa weeye kuwii xumaanta u go'ay maartay la musta'an de Hollywood-ka wixii xumaanta kama hadlayno waa meelihii shaqada meelihii waxbarashada meelihii lagu wasaay maartay transportation-kii meelihii lagu safrayay waa meelaha maaha dadkii xumaanta u go'ay xumaanta sameeyay xumaanta kale waxay ku leeyihiin Jarmalka 400,000 oo dumar oo waxa ka shaqeysta baa jira oo maalintii milyan nin u shaqeeya milyan nin halkii maalin bay milyan nin u shaqeeyaan bismillaah the economist waa majalada economist leeyahay waxa weeye magaran sheegtay BBC iyaduna 2018 kii dhawaa waxa weeye ma garanaysaa ay maqaal ciwaan uga dhigtay ay ku diyaarisay waxay tiri dumar badan baa waxay isleeyihiin waxa weeye ma garanaysaa waxa ku haysataan safety dawladda oo dawladda ay kafaalo qaadatay garan salaam musta'an dawladdiiba waxay ku leeyihiin BBC waxay 2018 diyaarisay waxay ku leedahay xeerarkii dawladda la rabay inay ilaaliyaan dumarka ayaa kuwii hayayba waxay ku khasbeen inay xumaantii sameeyaan dacaaradii iyo xumaantii inay sameeyaan haddii lacag ba cashuur ba in qofkii uu dareemo inuu liito oo qof liito u yahay oo shaqadeedii inay ka tagto waxbarashadii iska dayso qofkii qof uu noqdo waxa weeye laysiya maxay u camal laayihiin dad isweydiiso tiraado hablaha noocaas maxay u camal laayihiin waxay u caban laahiin ama waxay ka cabanayaan in ay saameyn ku yeelato oo iyada hadhowto dib loo raadsado ama in aanay haysanin evidences ama adilo ku filan oo ay ku qofkii ku dacwayso مثلا meel madow ama wax noocaas ah qofkii de ku sameynaya crime-ki waxaad weydiin kartaa wani ma gaaladu soo ku isqaawiye maaha ni dumarka gaaladu iyagaaba dumar ragii u yeeranayay de Soomaa taasas weydiinaysa maaha waa waxa weeye waa khuraafo iyagu ma yeeranayaan bale waxay ku leeyihiin waxa weeye Mareykanka section dhan oo wasaaradda cadaalad ka tirsan oo leeyahay dhaxaaya al-cunf al-hukumi wadadka la kulma waxa weeye isku dayada jinsiga la kulma wuxuu ku leeyahay dumarka oo dhan ba maaha mid qaawan iyo mid lebisan iyo mid wax xidhan dhamaantood waxa weeye ma garanaysaa ay u bandhigan yihiin in la kufsado leena mujtamac oo dhan muxuu ka haystaa aragtiyaha dumarka inay yihiin dad waxa weeye soo jiidasho muuqaalkooda jireed in lagu qiimeeyo baarlamaanada maxay baarlamaanada ugu tagi waayeen CNN soo lama yaqaano CNN waa shirkadaha ugu afka dheer waxa weeye Ingiriis ee Mareykanka 2018 kii dhawa waxay tiri waxa weeye ku dhagdhaga iyo magaran salaam musta'an taxarushku iyo maarta salaam musta'an qofkii inaad asagoon xumaantii yaar xumaantii ku daydo xataa waxay ku faafsan tahay baarlamaanadka Yurub oo Yurub dhexdeeda kuwii baarlamaanka qudhoodii baa isku bilaabay ma xataa magaran salaam musta'an bulshadii caadiga ahayd ma baarlamaankii baa macluumaad ka jirta baarlamaanka waxaad ka jirtaa haddaba halkay gabadha noocaas ee bulshadii nooca u arkayso ee shaqadii noocaas tahay ee waxbarashadii sidaa tahay ee shaqadii ee ma garanaysaa salaam musta'an dawladii sidan tahay halkay u ordaysaa de halka Saudi yiri maaha gabadhu qof ma baahna nin ilaaliye ma baahna aabo ma baahna qoys ma baahna gabadhu iyadu nafteeda hay sugto xoolaheeda ha shaqaysato ayadu meel iska soo saarto sawti la yiri maaha
waqtigu waa dhayisa maaha anigaba way iga dhantahay waxa weeye ma garanaysaa la weydiiyey maaha xataa kuma koobna bulshada waaweyn oo keliya xataa caruurtiiba maxay sidaa u aragtaa waxa weeye inay sax tahay in dumarka sidaa loo galo maraykanka oo kale waxay ku leeyihiin waxaan aad ula yaabay waxay ku leeyihiin dhalinyara waxa laga qaaday waxa la oran jiray muxuu ahaa ما انترفيو ما وحي لون شري كويشنير baa laga qaaday waxa la yiri dumarka ma sax ma tahay in lagu khasbo jinsiga oo qofkii asagoon raali ka inaad xoog ku khasabto boqolkiiba 36 waxay yiraahdeen haayo hadii wuxuu qofkii u baahan yahay inuu khasbaa willa wixii waa macal waraga iyagiiba sidan u hadlaya 39 kamid waxay yiraahdeen ha hadii lacag badan kaga baxday hadii hadiyada badan iyo alaab badan siisay aka tagina waxa weeye waa inaad waxaagi ka heshaa waaya waxa haysataan hoy adoo fiirso waxay leedihiin haday tiraahdaan waxaad ka sheekaysay eeg adoo fiirsada afwan haday tiraahdaan waxa ka sheekaysay intii zaawiyadii ama angalkii xumaa waad ka sheekaysay bal angalka wanaagsan iyo anaga jacaylkana loo soo bandhigay iyo filmaantan la sameeyay iyo Hollywoodkii iyo wixii ka baxeen wixina waa kuwan bal adoo fiirso waayay waxa jirta waxa la yiraahdo iyagu de guur ma yaqaaniin marka qofku wuxuu leeyahay saaxiib bal waxaan eegnaa saaxiibkii wuxuu keenay waxa la yiraahdaa waxa weeye daahirata al-shariik al-hamim ama primate partner oo qofka aadka ay isugu dheertihiin wasaaradda cadaaladda Mareykanka waxay leedahay qaybta waxa weeye hore u soo sheegnay violence against women waxay leedahay daahiro dhan baa jirto leeyahay maxay gabadha la garaacay almar'atu almadruba ama battered woman syndrome waa gabadha lagu tacadiyay ninkeeda ku tacadiyay ninkeeda ayaa ku tacadiyay oo dilaya oo sawirada haddaad imkaad gasho maaragtay violence against women oo wasaaradda cadaaladda Mareykanka aad gasho waxa ku soo xisad dumar wajiga mid lagu dhuftay mid ma garanaysa Allah musta'aan uu kii ay wada socdeen uu dilay يعني waxay ku leeyihiin qolada waxay ku leeyihiin fa inna waahid min kulli arba'ati nisaa yatacaradna lil-'unf shadiid afartii dumar ka samid baa la kulanta mid buu saaxiibkeedu uu waxa weeye ma garanaysaa ha war ku toora Francisco kale waxay ku leeyihiin 116 sanadii 2019 boqolkiiba 16 ayaa dumarka la dilay ama saaxiibkood dilay ama kii ay wada joogeen dilay 116 bay ahaayeen boqolkiiba 16 bay waxay ku leedahay Francisco kaaladan maaragtay Francisco wararku waxay tiri Faransiyad ama hal gabadhood Faransiyada ayaa 3 maalmood ba dhimata oo ninkeedu u dilay 3 maalmood kasta mid baa waxa weeye dabada taala 7 daqiiqo kasta Mareykanka Faransiiska 7 daqiiqo kasta gabadh baa lagu kufsanaya 7 daqiiqo kasta bal meesha noocaas waxa weeye ma garanaysaa eeg waxa jirta iyaduna waxa weeye dumarkii hadaba markay waxa weeye ma garanaysaa hadoo fiirsada dumarkii markii dabadii loo soo saaray ee la eriyay ee la yiri gurigii shaqo kuma lihid ee gabadh ay dabad joog noqotay de waxa jirta in de qofkii waxa weeye ma garanaysaa mid baa xoog ugu tagay kii xoog ugu tagay waxa cadaawada ay ka bilowday in wixii xaaraanta waxa weeye ma garanaysaa ku sameeyeen inay tuurto waxay ku leeyihiin Mareykanka kale milyuun xaala ama milyan waxa weeye kays oo laga soo tuuray caruurta ayaa waxa weeye ka jiray milyuun يعني مليون عروبة لا دليل وليبا مركي جيران يران لما دليل مركي ليه ويكي وحجران نفع عادية نقطي الروح اللي لو أفوفي أي وحوي دليل وسي كود دليل يعني وليبا وحوي بشع أضف الحن وواحد هذا قابل هذا سيستم يسمى بالله سور كده عروته قابل هذا ديليشن انيفوشن ابورشن إن قفكي وحوي مقرن سلا جوجويو وأنتم ما قصولات تجو وحلو حلو تصاروا قفكي راي مقرن سلام مستعان شري وواحد عادي دي لوجا ما أعرف لوجا قشعري روضة لوجا يعني لوجا حماده marka waxa soo aragtaa waxa arkaysaa yaani dadka adduunka oo dhani ma hayno kaliya in muslimiintu ay hogaankii adduunka ay dib uga dhacaan maxay ku waayeen halka ma ogtihiin in dagaal dhan oo muslimiintu dagaaladii galeen kamid ah in gabadh xijaabkii laga qaaday loo galay ma la yaqaan wada dagaalkii u kaadi hadda inay la socdaan iyo inay sheekadii hore la haystaan Faransiiskii waa ka dhameeyay waayahay dagaal dhan oo muslimiinta kamid ah reer Bani Qaynuqaa ku yahuudi degneed waa qabiilkii ugu weynaa nin yahuudiya waa gabadh xijaab ka qaaday markaas rasuulku sallallahu alayhi wasallam ciidankii dhamaa ku saaray hadda u fiirsada iyagana waxa soo xumaana kii de muxuu waxay carabta waxay ku maamahada xaamiha xaraamiha kii ilaalinayay bay xaday hadii waashmaanku habeenkii ku soo dhaco ka waran miyaad ilaashantaa kii madaxweynaha uu ahaa 19 dumar loo haystaa marka maxaa waxa weeye ma garanaysa maxaa laga ilaalinaya
waaye waxaan ku soo khatimaynaa waa doctorkii oo dul taagay waxaan ku soo khatimayaa gabadhii la oran jiray hore u soo sheegay Nancy Fraser waa gabadh waxa way feminist ah waxay soo tijaabisay inaan waxaan laga sheekeynayo hal ku dhigyadan leeyahay dumarku ha xoroobaan dumarku ha isku filnaadaan dumarku sidan ha ahaadaan inay been tahay oo dad gaar ka faa'iideystaan waxay ku leedahay waxaan weligii suuraysan jiray inaan waxa weeye u halgamayo in gabadhu xorowdo inay caalam wanaagsan aan dhisno caalam cadaalad iyo xorriyad ku suntan laakiin waxaan ogaaday waayadan dambe in aan waxa weeye cabsi badan ka dareemaya in waxa weeye magaranaysa astaamihii sare iyo cadaaladdan ku yeeri jirnay iyo inay dad kale u shaqayso oo dad baa ka shaqaysanaya ninka waxa weeye raasmaaliga ah hanti goosadka isagu wuxuu doonaya wuxuu lacag ka sameeyo marka gabadhii wuxuu leeyahay hal iibiyo sidoo doona laga sameeyo isaga lacag baa waxa weeye magaranaysa u dan ah ayagiiba wuxuu halkaas ku dhamaatay gabadha xoreyntii ay waxaan ka soo bilownay qarnigii 19aad la lahaa waxa weeye dumarka hal la xoreeyo waxay la maraysaa in waxa weeye goobtii shaqada meel ay erkataa ma jirto goobtii shaqada dhakhtarkii kii nafsiga ahaa waxaan hadda erka tagoon intii akhri baan u malaynayaa dhakhtarada ay u tageen waxa weeye ma garanaysaa hablihii ama xasin nafsi oo xanuunsanayay ama si xaalada kale dhakhtarkay u tagtay baa isaga qudhiisi bismillaah yiriyo de marka qofka meel uu irkadaa ma jiro waa waaqi noocaas يعني gabadha xoreynteed halkaas kula dhamaatay dadkan maalin walba intay jooga inta mashruuc ay ku soo qaataan isaga keen oo hinaya ee hablihii waa la dulmiyay sax waaqic dulmi baa ka jira rag badan oo waxa way waaqic jooga shaqadii dumarka way gabeen walaa shaka yani marka la leeyahay gaalada marka laga shaqeeyo haddaad igu tiraahdo dumarka kuwan buu la dulmiyaa de kuwan dulmigoodu ma aha inuu sharciyeysan yahay dad baa gafufka sameynaya marka haddii xeerkii qaban lahaa ninka qoyskiisa dayaca ee qaadka isaga fadhiista sharciga qaban lahaa waa sharci islaamka la isku xukumaa waa sharci islaamka la dabaqaa sharciga qaban lahaa ma jiro وين له هذا وحوي شقة هذا إيجو وين لما نقول لك شغله هذا شقة يسوي دول قافر يا ريرك مركز شقة سنة لكن إنه يهذا وأنا قاد كانوا عنوني العقد قاد كانوا اللي بيكين ما أهم مسؤولية الإسلام كله هي لكن يجوا شرعيا حمان تاني حمان ما أفراد كوبان وحمان شرعيا سن وحمان شرعي كاتين الله ربان إنه يقول يري يوم واتاس إلهي سبحانه وتعالى آيات كمان قصوا ختمنا وحين ليه هي سيدا شرعيا دين تانو أي أوتاي وحان الدون كوردني ديمها صامر الدون دين كقيمة بدن أو كأخلاق سريسة إن أنا يشرين إلهي سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض يعني قوامة دي مسؤولية دي وحلا ساري رك قيس كسيو هجاج وقيس كينو جوتشرو هذا وحنا يدين شيئين فرانسيسكا نيكي رجارك هاي حتى مكرون كي كوري بمالين شيء شرايط نقبته وحولي سيدا نقول العلني إنه وحوي قيسك قبل هلا إلى قبل السنة هلا سمي بين قيس كي دوميني وحنوبا هنا إنه خطاب كيني هذا الكيني ندب process karayno saynu guryaheennii u dhisannada guryaheena ka burburay marka mas'uuliyadii qof baa la saaray asagii baa nafaqadii laga rabaa waajib ku tahay qofkii dumar ahaa waxay ku sharfan tahay fariidnimada ma aha islaamtu sheegaysa in dawladda la soo baxdo wayna guriga joogtaa caruur bay tarbiyadeynaysaa caruur iyo shaqada caruurta ilaalinaya haddii la yiraahdo waxay la qiimo tahay waad qiimo ridii qofkii bashar weeye la qiimo ma aha lacag hadday milyan haysato iyo hadday $1 haysato waa isku qiime gabadh waa gabadh وحوي ويشرفنتها هاي ما قيمه كم جرو سو شيء جنسي كا وحوي العكتير منه كم جرو يعني يدو ذات أهان أي وحوي شرفن وحليله وعاشرهن بالمعروف مركز دي مكارك يسكون دمر كذا قراعية آيات وعاشرهن بالمعروف نيجي على الأمر ينو قبل يسوونه كل شيء وحوي محكمة اللي تكسني يهديه حمان وحوي كسمة يهدينا فقدي اللي جوايا هدي مقرن الله مستعان حقوق اللي يقولها اللي جوايا وحوي دي ودنبيلي إلهي وحنا فرينا مركا وحنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وتصالح وقص الرئية أيه وحده خيركم لأهلي بل توفر صدا خير كي يوم حلقوا حري كهل كيس وقو خير كبدن كحاس كيس يعرور كيس كهل كيس وقو خير كبدن أيه ديكو خير بدن أنا كان أهل كي وقو خير بدن بيل وأنا جاي ديكو خير بدن مركا خيريتي وحلقوا هناك كمان شلون قبل هذا رباحه قبل هذا الدشو قبل هذا الإنسان سميسه وهناك وحكون شراء إن تقيس كهجاتيسو وعرورته هجاتيسو وما ركتي قيس كإلهاليسو بلا dumarka dadka tusaalaha looga dhigay dadka muslimiinta ah baa dumar baa ku jira dumar tusaalaha ay xasuusta baya quraanka ku jiraan Aisha quraanka ma jirtay Maryam bint Imran iyo gabadhii Fir'aun Asiya وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون هذا وفر سلاح وضرب الله مثلا إلهي وحو tusaale ugu soo qaatay للذين آمنوا muslimiin oo dhan rag iyo dumar ayaa waxa way tusaale looga dhigay gabadhii Asiya وحوي فرعون كهرتمي الدين الإسلام كقادته إيوه قبل كلام مريم بنت عمران والنبي الله موسى هو أسير رميسي مريم بنت عمران وأيضا وحوي نبي الله زكريا وحوي وقوي سؤال الله قد جاي بلا إلهي وحوي جودي وين صار إذا كحمانته اسكت ضيها بله إنه حميان
ma xumaan kaliya hada isku day maaha inay xumaan ku sheegaan inaad tiraahdo hebla ha waa waaweynka waxa weeye magaranaysaa waxa weeye waa dambi weyn hadaba fiirsooy waa dambi weyn maxaa la yidhi hadaba fiirsa waxa la yidhi maxay in alladina yarmuna almuhsanati almu'minati alghafilat لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم آخرنا وي عذاب كل باو ضمبهية الدون كيو ويكل عنادين رحمة الله ولا قفوجي مركا عرب كاجا إلى شطوط أفك كدورة تدمرك أيه وحويل الربا أما وحوي حجاب كذا وحكر نادان أما حجاب كذا هورد ما يسنادو قف كاذو ما هردادان ده محكمة متهيدي قف كذا ونا جسال الربا مركا آخر هذا وحوي مقرن كسارة مسؤولية مركا صح حتى أفكر إنه إلهي سكت داينا نسكت داينه وعقلوا لنا يدي رسول صلى الله عليه وسلم يقول من كن له 3 بنات يرحمهن ويأويهن ويتكفلهن وجبت له الجنة البتة نينك 3 دمر له يعني 3 عرورة له أو 3 حبلوده وأنا حريسته وهو يسيا وكفالة قاته جنة أو وجبيس يعني جنة دي بمحل غير هذين يا مرك هبلي ولا غير هذين هبلي ولا غير هذين هالكاس بمارتي ميزان كودو وشوجا وحال يقول إنما النساء شقائق الرجال دمر ولا لهرج وخطاب كسر شرعي صلاة بالا فري صلاة بالا فري صوم بالا فري صوم بالا فري والله سمي ولا له رجع حاجة ما نت تكاليف تيجي إن حل صاري وحوي والله سمي كبر وحنكسر ختمي عليه هذا أرنولد وحوي شام عدا ما في ليه من إنجليز مالها سكاه عفمات كي واحد بروفيسور كنا قطي ما يقربسن أيضا مالها ستا عفمات كنا وقعد بوختليرية مركب في الأفرتن مالها سيود مقال بيقرط واحد تري waxaan gaadhay meelaha mujtamacu uu socdo meelaha ugu sareeya professor baa la yiri waa la tixgeliyay sidan baa la sameeyay laakiin ma yihi qof saciid oo faraxsan muhiimadda kaliya gabadhu waa inay reer samayso caruurna yeelato farxadeeda halkaas ku jirta hadda imka aniga wax farxadan haysta ma jirto hadii professor kasta la yiraahdo saasoo geedin waxa arkaysan haweenay waa tin hadraw ka tirinayo ma garanaysa Allah musta'aan hooyo la'aanta labada dhacday arkayo yaani gabadhu hadii hal caruur dhasho halkaas baa mashquul baa ugu filan ba qofkaas bay sida muraayada u eeganaysa oo farxadeeda iyo baraaraheedu wuxuu ku jiraa maxay in reer iyo caruur waxa weeye uu jiro halka la rabo halkay kuwan la rabaan maxay inay qarankiisa mar hore aan idin kala hadlay ku noqon maayo waxba waqtigo gaaban iyo xilli dambe ah waxaan jecelahay inaan aadan si toos ah u soo dhaweeyo labada nin marka laga yimaado laba nin oo aqoon buuxda inay yihiin waa laba nin oo aad u hadal badan sidaan ogahay waxaan jecelahay aadana ku dul qaadan way leedahay way soo dhaw حسن مكعود دارا إننا نسعدين دوني مركب هذا والسلام يا دمانتين مرلباتك أنت هان أوجد بين أنا برنامج كيجا ساكو سابسن حجابك حك لو قروح بدنه وحي سحب كانوا نجله هذا يونس وكبس عن الكوسي تبادر إن أنت قالت ده سيدنا ودن لو دلمية مركب لو كفصدو هذا الاختركي وباربارنا يو أكيد ورد وبارنا يو صحفي وبارنا يو ما هو هاللوي ما تقعنا ما الدويد هرجيسة إن بعيد يسكرت يسقشان سميدنا نقول ما هذا عي إن أنت صحافة سوفر استوى وحشي سوى شكتي تذكر محيكوك عن محي عسكرت سوماها إن أنت هرجيسة شوكتا إن أنت برعت شوكتي أنت روك سمريت شوكتا واحد هي ستحريد نك ساوي إيجس أي لوك لا دعي كرتو وتذكر منك تعيريان يدو لكن مركب كانوا كفصدي أسركي دولة وتوقع عسكري يكون محاض هيسا أي تكتير اخترك وتطلع محاض هيسا ميل اللاري ميل أدا ما شرتو ويب سايت بني دي شيغيا لا يراهdo magaciisa RAN RANN ayaa wuxuu qorayaa Mareykanku waxa ku nool 340 milyan oo qof ayaa ku nool wuxuu ku leeyahay 6 dumar kasta Mareykan meel taagan hadda 6 soo garan maysaan 6 dumar kasta mid kamid horto wal kufsad kufsiga waliba caadiga ah ayuu naqaanay wuxuu ku leeyahay waliba dumarka la kufsado marka boqolkii dumar la soo qaato laba kamid ah booliska u taga 89 kale uma tagaan limaada kan baa baaranaya booliska ولذلك كنت جماعيا أمو كيو بدي بقولي لبدا سوق ولا ملكي اللي تريي سنة كنت لك في صدمة تقانا أفر بقولي إحنا نكون دمر لك في صدمة سنة كي هذا ولا بدا سوق ولا سؤال شو واحد محاب لا لك في صنايع هل أرهن ويقاوي إنسى لك في صنايع أنقل برامج كي واي سؤال بدي ويدينا يا ولقين يقليه أنت النوردين مية درجتين قف مجتمع حرتاجن وكشة كنية قاونتي أنتوا نسقوا سفائدة لا هاي وحترك لا هاي ولقين مية درجتين قف كيسا قبل محوك شاكينية حجاب يسترون مع قالة دراسة بشرتين ما الأخير ما أخير نساكنك ما كذي سنة ويقول لي إنجليز كدراسة اللي قصة مي لويدي رجع ولقول كور رمى دمر كصاد واركتهم إنه كف صدينا لو كف صدوا بقول في الحلات ما حد هادين هلا كف صدوا سويت مركي لويدي ما حد هادين قاوين قف كست أدونك جود كيس صارن وقرنا يسترون أنتوا قيم الله
haye intaynan xijaabka gudagelinayno soo marno quruxda waxa leeyahay xijaabka iyo xijaab la'aantii isqaawintii dhar xidhashadii waxa oo dhan ujeedka laga leeyahay u dambeeya waa maxay in la qurux badnaado soo maaha way ereyga qurux definitionkiisa ayaa garanay qeexitaankiisa quruxdu waa qalbiga soo maaha waa been weyn qurux qalbi maaha way bini aadmi ahaan waxaynu ka koobannahay jidh iyo maxay ruux quruxda qalbiga ruuxda iskale jidhkuna quruxdiisu leeyahay waa xaqiiqa taasi qurux baa qalbiga iyo inaan qurux waxa liqa iyada sida kiniinka u liqa qalbigu wuxuu leeyahay qurux akhlaaq dhowrsooni xishood ixtiraam ammaano sharaf cisi karaamo taasa leeyahay maxay quruxda qalbiga quruxda jidhkuna waa qurux jidh weyn naqaana laakiin marka quruxda jidhka la yimaado ma jirto definition isku raacsan yahay oo la yiraahdo qurux waxa saaliyaada tusaale inanka Yurub jooga inanta markuu qurux ku qiimeeyo wuxuu eegaa inanta dhuuban ee aadan leeg ama kasi dhuuban halka kalxamo ka soo baxeen Soomaalida arag inantaas oo eegta taasa isaga rag ugu qurux badan wadaalك filimada marka daawanaysan ama Yurub dadka lagu duubay daawanaysan tasaawida sugsuguna waa sunna dadka maxanuun baa ku dhacay ma aragteen waa isteelka quruxda weeyaan ma fahanteen way marka la tago wadan leeyahay kaas Pakistan oo xaqana inanta sunniyaha ay xidhiidhsan yihiin ay habla ugu qurux badan ama ha dhubna tamaam buna talkan ma leeyahay marka la tago Japan inanta ilkaha qasan leh ay miciyo soo baxaan Soomaalida arag inuu miciyo iska guraaso maaha inantaas habla ugu qurux badan ama ha dheeraato ama ha dhubnaato ha gaabnaato meelka qasantay ha waa quruxdii qarniga way qabiil Itoobiya taga ma aragtin dad Afrikaan ah inta halkan dibinta la jeexo caag weyn saa loo geliyo war Soomaalida arag isteelka quruxdooda waa ka Soomaalida marka loo yimaado heesaha iyo suugaanta marka dib ugu noqoto inaan cirid madowle ilka cadcad ilkeeda dhuuxa dhawankeeda waari sheegday heestii soo qabo maxaa la dhawankeeda ururta sunniyaha bidhalatii sida qaanso lagu dhigay heesaha war meel way Soomaalida marka loo yimaado maxaa qurux la yiraahdaa inaga quruxdan waa qurux ka duwan maxay quruxaha ummadaha kale oo dhan yaani ummad kasta iyo qaran kasta meel degan wuxuu leeyahay maxay isteel qurux inaan yara hilboon oo aad u dhuubnayn aadna aanu burnayn iska dhaxdhaxaada dhaxyar waxyaaba Soomaalida inta ku qiimeeyo wax kamid ah dhaxyaraanta aanu faateen dhaxdu madaga dhaayay indhaymsa soo baarteen oo xaale heesaas wax mar kala qana wadaadka kalimayaan ugu way almuhim marka ma aragtan wax la yiraahdo quruxo adduunka guud ahaan isku raacsan inaan jirin way halka ay dhig marka meel dhameed ka tusayata waxa timi yaa laga xijaabtaa yaase jirka loo muujiyo ama jirka laga astura inantu ay ka asturata nin Soomaa inaan marka gurigeena ka imanaysid ee saaxiibada u imanaysid inta suuq wada soo libsanaysa way soo hagaajinaysa laakiin saaxiibada marka timaad maxaa sameynaysa tiracay saaxiibada leedahay iska xanaysa guriga iska joogaysa Soomaaha laana cidda soo qurxinaysa saaxiibada ma maxaad iska hagaajinaysa suuqa soo marisay nimanka marayay way ninka bima annahu uu yahay qofka la iska asturayo la iska xijaabayo ninku hadaba muxuu quruxda u yaqaan muxuu soo yaqaanaa sharaftiyo wanaag muxuu si inanta kaga hela inantu waxaan ayaama jirkeeda u soo bandhigayso ama isu ruuxaysa waxa weeyaan ninkan ha ka helo ma inta waxaan ahaynba dadka soo jiido ihtimaam hel weeyaan ninkan maxaa soo jiita way markaynan halka marto inan sida imika hablaha badankooda u dhaqmaan markay halka marto dharkeedu iska dhirjisan waxba wada sunato jirku qarsan dharku jisan yihiin ninba quruxdeeda meel buu ka eega nin si jeedkeeda eega nin soo jeedkeeda eega nin socodkeeda eega nin hadalkeeda eega nin wax la jinniga soo garamaysaan afka ragga qoor baa la yiraahdaa afka islaamahana jin hooyeenka intaas jin bay leedahay nin jin eega ninba meel buu quruxda ka eega walidaalك imka safka halka fadhiya abwaanada hadii uu quruxda cabir ninka ka qaab gaar uu cabirayo on qaabkii hore la mid ahayn ma fahanteen walidaalك buu cabdi hayban bad u lahaa ninba tuu ka helo ayuu hablaha hodan ku sheega gabadha adiga adduunka marka saa waqti sunaysid waniyo taas xay ka timi nin bay u tahay qalanjadiis ama jalanqadiis waligiin miyaad maqasheen way waligiin miyaad maqasheen inan baa la guursan waayo guumowdayo sababtu waxa weeyaan way fool xunta waligiin miyaad maqasheen maya limaada la nuxful xumad yahay ma jiraan waxful xumad yahay ma jiraan qof kastoo aad u aragtid inuu fool xun yahay qof buu leeyahay maxay ta perfect one kii ugu wanaagsanaa qof kastoo aad u aragtid adduunka inuu qurux badan yahay qof buu leeyahay maxay qof te fool xun way ma jirtaa markaas sabab aan jirkayga caawaba soo dhisay dhexda isaga soo xidhan soo xidho soo hagaajiyaan soo dhaashlaato si dadku ay iga helaan mo intii halkan fadhida inna waxay arkaan waxan yare baaba iyo dhuuban muxuu ahaa inna nin qurux badan bay arkaan si qurux badan way almuhim marka kaftan intaas ay haato laakiin wax qurux leeyahay isku raacsan yahay ma jirto qodobka liqa ama isa soo dhis ama nin baa jira xijaabka iyo sunaanta u arka inay intaas tahay quruxda adduunka mid khanaaf soo doonayo inuu sii daadaawado mid doonayo inuu sii daadaawado socodkeeduna muxuu arkaya falxuma ruuxan maxaa iska soo xidhay saabo oranay ma fahanteen walaal hadda waxaad leeqdaan marka fikrad ah nin ka helo ama yaanu ka helin adiga wixii kula maqaama garo intaan ku dhaaf qurux way
يعني قلب كانوا قصة حيوان قروح كلي يرجو كسمين واتك قرصون إنه نحن الرجال وإحنا نجعل خيالك قاتك يا وقع نسبة رجال دمر رج خمر جاي عبا حبكت يا عبا مو حاسود دراج سرجع عنص وماها سببت وما حي وإحنا نجعل أنا وين خيال يو وحيابو نلقى يريم كذا ورسالة هذه يورن وحكون يحلت ولا الكاميرا كان فري مجال برعين تفوق كل سنة لما لا بكت ما كرس خيال بانوس كتش على هيو وإحنا جا قرصون هذه شرينا نبارنو وإحنا جا قرصون إن ولذلك مفكرين توجو بدن يدتك وجو بدن وحقرة يدتك وجو بدن أبونا ده وحبوا وايو ورج إن أنتم متشعروا وحيابها يعني ما لا يعني جاكم مش قشام وحكم قناة نورش ده أنت هيسيج عشان يلا نوراتو هبيك مروسة كده سوي بحلا هبيك فرحتي ده سوي قاعدين هاي لكن أنا محن نشعل هاي وحس مشكلة أنت محن نقولنا نفكرنه ولذلك حضرتك السوق عمل كان مرسلين كل يقولوا جاينا يهبلوا كل جود ما لقيان سووا معها شو كل جود بيلقوا جاينا مركز اللقينا سوا مركز تقول فكرك بدن تعال ما فهمت ولا محن هذا بقى أنا وتشعل هاي أنا وحن نشعل هاي وحنا قرصون الممنوع مرغوب قاعدة هذا شرط سيدا يعني إنه قرصون مثلا إنهم بندون ينا نقول هذا تصوره إن أنت تقدر كل جسم بيصحرة تي لحدي بالي ربك صحرة تي أول ريد شركة سيس كيس يعبر كيس يورنا الكاسان كقيمة كرايا وني هالك ويكفر حنت هالك وكير ونحسن هالك وكير رانت أوريدي كركان كهيا مد أهمية هالك مركي دافتني لاوي إنهم بيصور مرتي وده حجابن كرات كيهم حبوا باهين خيال إنه فكروا ترى أنت قروح ديده ترى هالك سويت ترى هالك كذا ترى إن أنت إيرائي وحلاقي يا با لبده براد صوصتين نيدي ده هيسته ما فهمتين محنو تعالى مركا عنو وحنا قرص وحنا لو سو بندقه مجعلين بل وحنا لو سو بندقه ساسن ku ilowna marka aan aragnaa ugu dambaysa aan ma fahanteen xijaabku marka muhiim u yahay inaad quruxdiina nagu mashquulisaan anaga inaad quruxdiina ku mashquulato inaad taas waqti sida baan u ekin cabirkeeda sayiskeeda laakiin wixii markaan ka eegayo macnaysa man meel kale aan ka tusaya wax dagaalada iyo jabhadaha iyo dawladaha iyo waxa ku dumiye ee gale ee waala waay marka ma soo dumar لماذا؟ مركب مكسيات برود كنا كتلني حوجا يرى دولة كتير بهاد عبر سباي ريتشري أنا وحنا كنا من هان حريتنا إنه هبلو واحد يقول بدها كم يشري وسكنا وراين نمكم حد دون حريتنا هلان قرية قاتلو دولة دي بيخدين ما أنت بالعيار قسم حالي نقول شك أبي عشان نقول هذا نبض بدها يستن حرية بدها يستن أنت سوي نقول هذا أنت واحد في السن 100 درجتين إما كنا واحد دون يدولة اللي هلو إنه أضاق وقف قصة دم يرى حكورنا يا حين هاينا مدولة بين هاينا يعني مركز أنا ومحن فرادنا وحنا جمقنا لكن وحنا يسنا مرادنا ولذلك بنكم مركو قبل جورسدو وبهذا محي mid labaad iyo mid saddexaad inuu guursado laakiin intuu gabadha qura la sheegaysan yaa maanu guursanin ninna kuma fikireen inuu gabadh labaad guursado ma fahanteen walaal khayaalkaygu waxa uu idinku raacaya waxa weeyaan inaad naga qarsoonaataan aan qodobkaana dhaaf waay quruxdii qalbiga jaarta quruxina qalbiga hayso meena soo arag qurux waa jirkaas ku qurux badantiin laakiin waxaad ku qurux badantiin intuu naga qarsoon yahay quruxda qalbiga iyada waa iyaduna waa qurux gaar oo jirto oo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku ducaysanaya allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin خلق سؤال دعاء سامي شيخ إلهي سيد أبورتيدن أقرح سيد وهجاتي سي سيدو كلام حي وهجاتي أخلاق ذي ديان شحيجيو يقرح ذي قلبك يعني سيد قرح ذي شركة وهجاتي سي قرح ذي قلبك أنا وهجاتي بالله وسيد وهجاتي يو سيد قرح بدنتين قلبك إنه قرح بدنا ده مين ده وياي قلبك حاجة أنت عم صار عفيو إنهم بيساعدين إيسا إنهم با تيك توك صار يجلس يجلس يروح يسا إنهم با كذا وكذا جبرد إنه يسقر حسا وفدرك وأبورن سيدا إنك هو أبورن تاي فدرة إنه جبرد قروح تبادن إيجا جبرد السجل قروح تبادن البحر مكس يسول كمركز يجينا سنة حضارة ده لقى شاكينا يو مركز حضارة ده لقى صار شاكينا يو حيابها أساس جهل الشيء جه وحكم ده ومدى الدين تهدا وحي عبادة سنشرتي وحي آمن سنيد يدمر كده وحي يسقر حنشرين البحر مكس ده مهم عشان دمر كاس حديد كيس قرحين شرن كواس الذهب كواس كذا وكذا كواس قبل ميل شوكت أما عوانها تمام أستراليا أما أفريقيا ما شو دمسات شوكتي فدرا كو أبوران أما حي إن يسقر حسه ولذلك إن أنت نقصد ما كو قرح بدنا لا يعمل لكن قروح لما تأيد الدور سين يارتان مسوى تأيدون سدت كين يقول موقته تدون سيد قروح إن يارته يدور غير ما اسمه رتين فون حمتها دقف كرسوني لا تهي وين دقف بلا كرسوني ذاك هذا ماي هذه دون سدت كانوا قروح كدون يان ما مجتمعنا لونه شو قروح كدون يان وقروح ذا عينك كقرصونات ولذلك مركب إننا هل كامرته إن أنت أي شركة وذا الشغلين هي إلى مرايد أي سيدته ننكست سؤال سويدين يا وحي تهي تلو إن أنت عنده هذا قرا عرفت يا كسر مرايده عنده قرا واحد دوني ماي هذول دار كل عندي مع سمين مايان فلوس ولا مايان لبنا نقول في سياق بحياة بابوعين كيرا عرفت مربين تاريخ قرصون سوسا وفي ذا يوم مركب مقوض في ذا أنا فهمت ولا واي نبى ماني تيك توك أنا نقول كشرا يوسف الشيخ وكلمه هي نبى ماني تيك توك كسو سوري جاي بناك وحيوري ايفون 11 6000 بودن بيمك ايفون 12 كاورد ايفون 12 ان لا يحي لكن باسوركيس لا يراها يلا استعمال يو سوردي waxa ku jiriyo wax bilay la og yahay waxa iiga qiimo badan nookiyada reedaha kala ma garanaysa maski lagu ciyaari jiray giinka mask ya oo anigu baasurkiisa wixii sabaysna anigu furanayo xidhanayo adigu labadan isku doorsan lahay
mid xogtaada iyo macluumaadkaaga iyo lambaradaada iyo cidda lahad si waxaaga ay ku kaydsan yihiin iyo mid Soomaaliland ba kula ogtahay waan dhaafaya taana qodobka xiga markaa ilaa hadda ayda iyo xadiis midna meynaan gelin sidii sheekh oo kale aqliyan bay logic baynu ku wada hadlaynaa miyiga markaad tagtaan ama miyiga markaad u fiirsataan reer kasta gurigiisa waxa ku dhinac taala maxay xerada maxaa loo sameeyay xoolo in lagu xereeyo macageela la xereeya soo maaha limaada ba xoolo loo xereynaya si bahala looga ilaaliyo neefka xerada diida ee marka sada xerada ka firdhada ma laga hadhayo ma la deynaya faham markaa qodob nahnu rijaal waraabiyaal baan nahay waraabiyaal soo garan maysaan anu waraabiyaal baan waxaanu doonaynaa waa maxay waa idinka jirkiina idinka xataa idin dooni ma shakhsiyadiina dooni mayno jirkiinaanu doonayna markasta oo aad naga xirootaan oo nagala dhuumataan oo naga xijaabataan sidaa xoolaha ariga xerada ku xiraysan uga badbaadiya bahalka dibadda ayaad nooga badbaadaysan markasaad banaanka nagu soo baxdaan ama suuqa nagu soo baxdaanna run baan idiin sheegaya waxba islaam iyo waxba yinaan ku marateen dadku miyaan islaamay inanka saantii soo qawiso dunida soo wadhaa marka la qabsado leena waxnu wada daraamo mid qashqashaado miyaan islaam laahayn miyaan ilaahay laga baqaynay la soo fadhiisataan run baan idiin sheegaya inagoo islaam baad arki doontaan haddii aad fasahaadaan idinku iyadoo sida dumarka gaalada meesha transportation iyo tareenka iyo gaariga la idinku qashqashaadayo oo iskuulka la idinku qashqashaadayo oo jaamacadda la idinku qashqashaadayo dhakhtarka kaadbeesha kawtiina kabeeshankeeda inaad diiwaanaysan idinku qashqashaadayo limaada laana wuxuu doonayay bad banaanka u soo dhigtay maxay nimanku sidaas oo dhan quruxda dumarka ugu jecel yihiin su'aal muhiim ah ma labadii ugu horeeyay adduunka isdilayay haabil iyo qabil maxay isku dileen inaan qurux badan bay isku dileen waa labadii nin ugu horeeyay adduunka ilaahay ba ku abuuray aadan dabadiyo waadan dhalay laba hablood bay la kala dhasheen waa la isu weydaariyay waxay yiraahdeen tan gursaadna tan mid baashow inantii isaga la uurka ahayd ay isku mataansanaayeen baa yar qurux badnayd tii buu yidhi tan ilama yar qurux badnaan iyo tan ila dhaltay baan gursanaya war ilaahay sidan muu oran walaalkii muxuu dilay markaa gabadh qurux badan inuu gursaday daraadii hadhow intu miskiin halka soo farso kon yaray gabadh marka quruxa ku raacina labadii ugu horeeyay isku dilay maxaan ku raacana anaga wax kale ma garaacna war ma garatan inta labadii nin ee ugu horeeyay ee adduunka isdilay waxa isku dileen waa qurux dumar yaani jirka dumarku anaga ahmiyadu noo leeyahay haddii ka banaanka naloo soo dhigo dayn mayno ama khamiisaanu sidan ama shaari surwaanu sidan dayn mayno marka inoo qariyo walaal ma garatan waay qodobka ku xiga marka walaalkaas walaal ma lihidin hadduu ku yimaado ku yiraahdo walaal inan baan doonayaa inaan guursaday bal inan ii soo baadh inan nacawada soo baadh inantii tiktok caanka ka ahayd ee waxaan ku halka ka jaas jirtay inantii iskuulka ugu waxaan ku shaxshaxda badnayd ee waxaan ku galaaska ku dhex jiri jirtay inantii khatar tahay inantii suuqa inantii wad raadinaysa inan astroon saaxiibada ku darmiisid inan astroon xijaaban baad ku daraysaa sama ama dabcan adigu inanta saaxiibadaada ugu aragtay in qiimiye maqam ku leedahay oo astroon xijaaban laakiin oo hablo yar wanaagsan eedatay oo eedatay inay soo saaraysa way sidaas lamida nin kastoo caawa golaha fadhiya iyo xataa ku halkan xawaagta ku cabiyo dibadeena markaad u tagto haddii aad ku tahdo walaal ila tali laba tal ku siinay xijaabo nin kasta wuxuu ku oranaya xijaabo kow raggana iska urur ha ku milmin rag labada tal nin kastoo adduunka jooga ku siinay ninku oranaya isqaab weliga arkimis ninku oranaya banaankiisa soo dhig arkimis حتى كدوني إنه ملها شركة كجرا راح يستويش كلا الصعداء هذا لك لو قرح بدن إنه الحرودان ويا يعني إنه السنة هذان يوحي اللي ينشر حيمك أيوك سواق بنايا وهذا مركب واحد مهم كأي وحويان كلما نجا قرسونتين مركز صاد نجا قرسونتين ومركز تقع أبغيمي فرب بدنك تيجي كل هذه واي سيدا أولا شيء وجود دوري لهيد إن أنت أستروني حجامني أخلاق دي كرامة ده إن أنك استولي دوني سولا شيء دي زونا إن أنا أستروني ولا لك إن أنا أستروني حجامني أنت زميلك خلخش كلا صار يدينكم واي قلب كحيجة مركان سوديك مونا نقول خيال كانوا تعلّه مركان أنا هالكها صامرته أي حجاب أنت هاي أسترانت هاي سيد الشرع هيدا اللي نوشة جوا أسترانت هاي وعريس إنك كوا عريسين يسوي كل هذا هاي نرجعهم كوارك يعني أنا تفسير كانوا قاعدين بدن كبروا يحجعلي نيل فهم يجوا وحبس بريري وشيء هبين كأنه عريسين هاي أفكي بورس أنا معه كودا يموت شيء لكن عبار مركل وذا مركل دائما حيوان نسا وحيو حصار داعي مش عليني مركب هذا الشيكتو يعني تمركوا حجعلي دائما نفس دهان إلا فهموا وحيدوني يسوي معه مركل إنه واضح حجابني هالك ساو مريسو أنا جوا عريسين ساكنين عن محي هذا نرجعهم كوارك قيمة أنا قاعد كذا كل هذا هاي رجل لماذا أنا كنت استرامية يعني نمويل شهمية بنكوارك مركب محن دون أنا محي واجبة إن الرجل لماذا ذي قيمة ولذلك إن أنت وحكم أسكير أورورنا يا حبا وير بريا هدوم يدسكوا دينه لها دون يستيلناك لماذا رجل لماذا ذي بكت عادي إن أنت روح يقول له هاي نرجع بنكوارك إن أنت تقول نرجع بنكوارك تقول سيد الوقت شخص هذا ما حد عاي مين أمسي رجل لماذا ذي بعلوم يستسمع معها وين أنا متقال ما مركب
sidaas si la mid ah inanta soo qawisay soo kuskusta halka soo marta iyaduna waxay ugu leedahay aradan intii kale wax iska celisan aan ugu fahmay sida ninka soo fahmaya maxay ku leedahay waa aniguna wixii quruxa doonaysay waan hayaa kuwaasi haddaan nin tahay kale wax iska celi tabeetana haddii aan kufsan haddii aan wax kale ku sameyn xataa haddii aan wax kale ceeb ku sameynin waa markuu erey ka sii dabeelay mise jabaad inuu wax laga sii dabeelay dhucday quruxay waxa laga sii dabeelay mise aragtay soo ma badna ya weliga arkamaysid in xijaaban oo suruna ereyada laga sii dabeelay حتى كمارتي بهالكا كأن الخنافس كم ينهن شوكا كسي دبوران ماي لكن تاش سوكس كستوى لقى سي دبوران أيه حسنا هذا يسوي من وقتي مدول واي خذ بكحيجة مركز مهم كا تيك توك بارك تيك توك أنا أدوق فيرسا إنهم بقى مال مهر ويسوق جلسة أنت كل كذا قريس كسودو بس هبه استعدت أنت لكن كل كذا قريس كسودو بس عاديو ويسكع يارسا مدون يجيرو شركة كل راح يشتغل لكن السيدة ولا شيء لدونين بمحو يسوق قرية كومنتيجا نعرف تكلم يلا ماشي شاف بكو هينين واحد وجهي يروحون صور لي بساوي ما هي سمين يسا فيديو كحيجة يعني أنت يو وما فهمتي واي كان يسوق محو دونيا يسوق إنه شركة هذا كل راح يستو دونيا دبتك كل راح يستو يدا لكن محا هجيا جرات كذا وحكوي أنا يا هذا الكوفك شايل كي يكون يوري صدق حفر فيديو مركز ساق صوت مركز ما بتكون أنا بس كلام يدهم بدي بالهين بريتولي كي ماشي هذا ضو فيرستان واي هذا ضو فيرستان تيك توك هبلا كشرة هذا ضو فيرستان وتوصل أركي سان قضبك كومنت جينا ولا بقى سكينة كوكرة ميسد كومنت جينا هلك مسارين إن هالكاس أتصل وجينا صوص هلك كومنت بقى صارنا نورتادو فيديو ما تحصل بتامي يضل لقلا هين ومش صور لافينا صدر كيس هدي ولا قف شاهلة هذا الكيس أوكما ملؤك وهجو وحتى يدليد أرجع فهم كرتا قف شاهلة يستجمع نفتي سوار وهينين أو ورسوهينين ودون يهب له بس يكرامي شرفني وشرفتك قاعد يروح هذا يسوع بندقة اللي واحد وحني مرة كل يوم أنا شفني ميدا مرة هو يسوع بندقة دام كداوده ولا شيء مينا تاكورني يسبر نخرج وقت داوده أنا نك ولا شيء تانو قولين مركو أديك كوق قولو يعني تسوع تكتادو صوت دكتور مفروض باتي مثلا عس تليد باتي وليد أما فهمت ولا واي إنك طبعا ما هو كويس واي المهم مركا أوجاده هدي هذا الكوفك شاهل كاي أوك معمله وشاهل داود كسيلي تعادقنا waxa ugu badan ee hablaha ku kalifay in ay soo bandhigaan waa maxay qof jaahil wuxuu ku leeyahay qof jaahil oo hadal meel ka yiri wuxuu ku yiri hablaha sida u waalay inta ugu badan dhaaf marka way nin hada Steve Harvey imika ninkii bada kale soo galay marko abdirooyin sameynayay almuhim tusaale yar wanaagsan oo qurux badan oo keenay ninka idinka sheegay dumarka u taga su'aali weydiiyaan su'aaluhu ka jawaaba إنهم بسؤال بيدي صح يكون سنين مركن ديتنو بحيو ديتنا مش عم بقول ذكرنا مركن ديتنو بحيا مان مثلا قف نشك سوق لها بين سوق عشان أيو يصدق صوره إلى أنت تستم صور دركاسا نقول بحام مثلا درك الاستهلاك صار دكوا قارد وقاقون ويقولوا تصدق يبغى قروح بدين أنا مركز كتير الله يقول لكن تسأله قروح بدين بس يقولوا دقيسو أدونك واحد لقى عسلام حاجة خالصة ذهب كير دائما كيو باترول ذهب كير دائما كيو باترول وحايرو أن الشام أردن يقولك عربي هذا لما أيوك بنا يوم حي وبادروا الكود way xagaa dahabkii dhamkii batroolka laga keenay ursinka hoose ee dhulka laga keenay yaa soo saara nin dhaqaalihiisii haysta qalabkiisii haysta u dhibtooday khasaare ugu bareeray kharash u galay isku kharash galay u hawshoodayba soo saara limaada bay qiimaha intan lagu yeeshan leena wacsiiso lama heli karo kullama waxaan ay casiis yihiin oo ay yar yihiin oo ay qarsoon yihiin maxay noqonayaan wax qaaliyo dadku dhamay wada jecel yihiin wax qaaliyo dadku dhamay أي وده شعلي بنقولي مركز طبعا لنا كنا عندك تسيا واحد نكون والله هي أنا كمان مكرنا ومحي بيها هي هو ده مكان نفسنا يبيها نعبي الناس وماها وي أكتر واحد عليه حقي ماكم لها اللي بدأ بواحد نحسوسنا مركز نو بهم بيين الشران أمام معنا إليه هنا واحد نحسوسنا مركز نهرادنا واللي بقى نوجني ميلها هنا نبي كده وين أي أكل إنه مرة نوح مي صبري مدي كشران أي أكل مركز نرسم مركز نكون وين هالرادو هو ده واحد نحسوسنا مركز أمام ميل قرمون صامرنا أما النقص كنا قبتين وحنوسنا أما إنه نقف نقص كأيوه سجين لقوه لبضع شر من حسوسنا نبي مالي شيء قضيه وين مركا نقص كقبتي أكسجين بالقوه حري ساعات مركو حنيت بس $10 لقى قاعد $10 أكسجين تريبيو وإنسان محاك أو يروح وحيجوه إلهي سبحانه وتعالى ستيت شربنا هايو ستيت كاسنا ودي سبلاش مكسون نوجو يمالنا الحمد لله مورا هل مربى بنان مجهوه وجب هذا ساعات بس $10 رجسي ما فهمت ولا هودا يبيها أو أكو أن أجوبها هذا بدنا هاي إيه أين من كمار مين محي النقطة محي الناس صباح حسوسا إلى أن نوبهنه لأنه ورخص ميل البوي يلا ميل والبوي يلا شركة إن أنتم وصلنا
markastoo inantu ay jirkeeda qariso sida dahabkii dheemankii batroolka loo dawarinaya markastoo inantu jirkeeda ay soo bandhigtana iyadoo aan laga maarmaynin oo lala wadaagayo lala leeyahay oo la baarbaaranayo oo la guursanayo haddana maxay noqonaysaa sida biyaha iyo hawada oo kale idinka markaa kala dooranaya dahab iyo dheeman iyo biyaha hawo ka noqonaysaa kaan intaasan ku dhaafay waay mas'alo markaa muhiim aan idin sheego marka wiil uu walaashii uu ku raado walaal gabadh baan xidhiidh samayn meeqa xanaaqdan soo ku farxdaa way soo dhawaysaa marka inaan ay walaalkeedu ku taado walaal inaan baan xidhiidh la sameeyo aan doonayo inaan la hasaawo oo daadii aan isfahano aan guursado meeqa xanaaqaya soo farxaya gowracaya soo ma waay sababtu waxa weeyaan sababtu ma aha inuu walaalka ku xumaynayo sababtu waxa weeyaan inantu waxay garanaysaa hadda eeg sida ay gabadhu u fikirto sida ay gabadhu mashaacirta iyo jacaylka iyo dareenada iyo waxa aad bay u cisiisaa way karaamaysaa waayo waa iyada caadifiyada gabadhu iyada caadifiyada way karaamaysaa wardaalka markaas walaal inan baan la sheekaystaa si suuqin guurin lahayd reerkiina u dhis lahayd idinka wanahayn lahayd ayay ku dadaalaysaa laana iyadu waxay doonaysaa walaalkeed iyo inanta is jecel yihiin inay isu geyso wanahnu rijaal anigu ka niman ahaan walaalkaa sababtu u xanaaqaya waxa weeyaan wuxuu garanayaa walaalkaa siduu ninku u fikiro ninku suu fikira ninkani arrimaa idin sheegaya sikrada aba fool xumaada caawe arrimaa idin sheegaya sikrada xuural caynta wax laga samaynayaan maqal mar kasta diinta waad ku maqashaan iyo quraanka iyo xadiista jannada dumar xuural cayn jooga waligiin ma maqasheen xuural cayn jannada jooga ma wali maqasheen taa macnaheedu waxa weeye xuural cayn ma joogaan jannada inantu guur ma laha hadii jannada gasho maya way joogaan way idin joogaan wixiin laakiin maxaa lagu kala duwan yahay maxaa ninka loo yiri dumar xuural cayn jooga ee aan inta looga ekaan la yiri waliba waa dumar kaanahuna lu'lu wal marjaan ee aan inta lagu joogin lagu waliba lamiyad sunnaysu qablahum walajaan jiniyay sitoonadii kurtin mutaabana idinka iskale maxaa loogu yiri ee waliba lagu badiyay leeyahay intaas gursa maxaa ninka sidoo dhan gabadha xuural caynta lagu macaaneenaya li'anna marka arrinku uu gabadh noqdo ninku waxa koobaad uu ka fikiraa waa maxay sagaskiya galmada waxa koobaad ninku ka fikiraa waa maxay galmada inantuna waa waxa ugu dambeeya ee ka fikirto yaani ninka iyo xaaskiisa caadiga isqaba markay habeen uu ninku doonayo inuu xaaskiisa casho geeyo markay gurigooda ka baxayaan ilaa markay ku soo noqonayaan gabadh maray sawir iska qaado maray cuntada sawir ka qaado maray la sheekaysato maray wax la wadaagto inta maxay ku jirtaa iyadu mashquul kale isagu markay guriga ka baxayaan markay ku soo noqonayaan muxuu ka fikirayaa waar ma fahanteen ya يعني ننكو وراح يقصوك عنا فردنيو واي يعني ننكو وحو كفكرة وامحي ننكو وحا ugu horeeyo ka fikraa waxa weeyaan waa sex waar hal duubay sumoogin la duubay ninku waxa ugu horeeyo ka fikraa waa maxay sex ma dhawd buug baan akhriyay buugan magaciisa way ka baxsaday laba buug ma isku ay ku aad almuhim buug baan akhriyay wuxuu qorayaa buugaasi sexka markay noqoto galmada gabadhu usbuucii dhan hal mar bisiniyo caadi uga fikirtaysa wallahi galmadu baahanta hal mar oo qura annaga ma taqaanaysan uga fikirno si waxaan u dhigeysto qodobka waxa lagu leeyahay 85 ilbiraqsiya kasta ninku marbu galma ka fikira haduu 85 ilbiraqsi waa daqiiqad iyo 25 ilbiraqsi ninku marbu maxay ka fikira galmo inantu usbuuca dhan bay hal mar walidaalka bari glooyid afar dumar guursan ma fahanteen walaal qodobka muhiimka marka waxa weeyaan walaalka wuxuu garanayaa ninkan wuxuu ku fikirayo ninkan 12 ka caawinta adigu siraday jacayl buu kula wadaagaya wad sheekaysanaysan oo waa kan adigu muxubad muraaqado adiga ay ku sidato meelaha kale ku mashquulsan tahay soo muxuu ku mashquulsan dabeetana ninkan qaabka quray uu walaashi uga ilaalin karo ninkaas inuu dami ku ridaa waa maxay meenu ninka u tago la soo dagaalama maya waa maxay qaabku inuu iyada celiyo ku radaa bixinaas waa kan uu xanaaqo oo hinaasiba qabanaya ma fahanteen sababta inuu walaashi uga celiyeynay nin la sheekaysato ما فهمت sidoo kale sababta inantu walaalkeed ugu taagsan inuu la sheekaysto ma aha inaanu idan xumaynayno markaan idin leena joogo ma aha markaan idin leena xijaabta samcada laga baqsinaysa way markaan idin leena xijaabta ma aha inaanu idan xumaynayno ma aha inaanu idan cadaadino ma aha inaanu xorriyad ka qaadayno laakiin sida marka ariga la xireynayo ceesaanta xirada ka firdhata loo eriyanayo habeennimadka loo soo celinayo xirada loogu celinayo si ay uga badbaado bahal si lamida baan idin kana idin badbaadinayna ma fahanteen walaalinta way qodobka marka warwaba iska dhamaatay in yar bahadhaan واي ugu dambeynta marka waxaan siinaya taladii aan walaashii siin lahaa dabcan wada garasa tirada walaashii siinaya Soomaa taasina idin siinay taladii aan walaashii siin lahaa ee wada garanaysaan ayaan idin siinaya nuwad ogtihiin ninka maanta hargeysa ama hay'ad lacag soo siiso ama burcini kuma dahay lacag soo sale habluhu inaan jamaha ku joogno jibada shaqada xariyada yeelato walaashii qalbigu soo xidha walaashii qalbigu ku soo xidha hablaha magaalada kale muxuu doonaya
inuu fasahaadiyo qaar maarta mina yidhaha hablo iyo madaha isdhex galaan dhalinyarada ha la isu fasaxo soomaalina arag ma ogola walaashin nin kursi kula fadhiisato ma ogola laakiin muxuu doonayaa adiga in dibad ku saaro si uu isagu kaaga danaysto ma walaashin nin kale ka danaysto qodobka markaa u dambeeyaan idin sheegaya adigu iskanaansa soo maaha Aisha bintu Abi Bakr wad garanaysa soo labadaas waxaan garan maysid naagta Paris joogta waalanay qaawan wad garanaysa soo maaha filmadii meelaha ka daawano tiindiyada ah Bollywood ku jirtana waa taqaana soo maaha adiga iyo dumarkaasi jir ahaan marka la idin eego wax kuma kala duwanidin jirka marka la idin eego inan kasta jirka inta inantu leedahay taasira way leedahay waxaan kula duwantii waa maxay hab fikirkiina sad fikiraysan Aisha bintu Abi Bakr sharafti iyo cisiga iyo karaamada waxay u arkaysay inay dhowr soonaato ama fahanteen way dhowr soonaato marba qaarta macnaheedu qashqashaadaan oo yiraahdaan galmay sameeyso ee dabdaro ku sameeyaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala 7 aayadood ma ahayn 7 aayadood buu Ilaahay u soo dejiyay si uu u bari yaro yiraahdo gabadhan waa gabadh sharaf leh Maryama bint Imraan baa Ilaahay 7 samidshooda muxuu kaga soo amaanaya inay xubinkeeda ilaashatay Maryama bint Imraan lati ahsanat farjaha inay xubinkeeda ilaashatay baa Ilaahay kaga soo amaanaya yaani qiyamka iyo afkaarta iyo fikirka ka dhaadhacsan muxuu ahaa waxaad wax ku tahay akhlaaqda iyo shaqadii dhowrsoonidaada adiguna waxa loo baahan fikirka inaad qaadato hadaa tahay maya ee waa inaan noqdaa balag waxa Ilaahay quruxsiinta muraad surta agtada isu bogto waxa Ilaahay quruxsiiyay maxaan u qaranaya waxaan soo bandhigay dadku ku qabsadaan adiga naagta Paris jooga isku mid baan noqonaysan sida taa Paris joogta dhakhtarkii askariga iyo waxaan ku mid ka soo shaqaadayna burcal ugu shaqaaday ugu diin maayo waxaan ku soo koobayaa marka laba maan soo mid walbaan 5 bid ka soo qaadanayo maansada koobaad waxa tiriyay farmii maqan Ismaaciil دكتور اسماعيل كالكولاتر معلنكيني wuxuu yiri xaragada haweenka ilaa xaakin kan qiray xaragada haweenka ilaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala inoo qiraya ilaa wax xijaabkii xagga looga tagay yaani muxuu u arkay isagu quruxina tahay inuu ka qarsoonaato anaga bay ciil baan ahayo mar baan saada maasa sameeyo masan ku tuntay baraan maasa ku tuntay in yaro kamid ahayd baa waxaan ku wari muuqiyo hanaankaaga hiba weeye ogadaad jirkaagu hogalda ay saqaabkeeda kolka aad hilaac nuurto halacsiga darbaa eeda waxa tuban hacoo suuqa taban kula haleelaya haydaaro hoga giile waa laga huleelaaye ka hagoogo hoga kiisa ama faanteen waxaan kaga badnayaa soo maaha waxa weeyaan walaalka ka xorow waxa weeyaan magaalada uga caawin gabadha way xornimada lagu sheegaya waxa weeyaan walaalka iyo aabahayani ku celin oo wixii adab darro ah aanay ka celin marka walaashan wixii adab darro ka celin kari way isqawsay magaalada u baxdo hadhow haduu nin soo qashashada ama kufsana ma wuxuu geystay ninkii la hadli karaya laana walaashida lugeeda ku doortay soo maaha waa inta weey sidaad cisiga karaamada ugu leedahay ugu lahaada sidaad ugu asturintiin ugu asturnaada wad aragteen inaan hadii saa loo dhirbaxso iminka inta hargeysa lagu yira maagmaagay askartu ku hadashay waxa u dhacay Soomaalina arag inaan hadii saa loo maago saas inuu wada xanaaqna ragii dumartiin ku tira leegnahay dumarka Mareykanka kuwa caadiga loo kufsado waayna qod kale iyo lecture kale iyo muxaadaro kale aynaan gelin laakiin se qof waliba su'aasha xageynaysa uu isleeyahay halkaas ayadu uga baahan tahay uu sheego magaciisa saddexan baad qof waliba uu ku horeynaya haddii arday yahay haddii uu kala dambiyahay dowladda hoose u shaqeeyo haddii meel kale uu sheegaya cidda su'aasha uu weydiinayana uu taabanaya saraan ama Cabdimaalik baan weydiinaya ama Aadan baan weydiinaya hablahan ku horeynaya jeclaa inanta su'aal qabtaa inay gacanta taagto imika haddaan isqaawiyo aan dhar igu dhejisa xidho oo aan suuqa soo maro kuninan baa lambariga qoranaya ka shidan ka quruxda badan leh ka lacagta haysta mid kasta waa ka lambarkaaga sheeg buu odhanay hadhow markaan guriga ku noqdo inantan saaxiibkan waxa qornaa shidan baa lambariga soo qortay maxaad xidhnay dharkaasan xidhnaa hadhow iyana kuwa xidhansaa marka anu nimada waxaan ku leeyahay hablaha markay dharka isku soo dhajiyaan aan xijaabka xidhnayn ha amaanina lambarna ka qorana say waxaan weydiinayaa Cabdimaaligo muxuu ahay ku qornaa xuquuqul insaanka Cabdimaaligo kulay barnaamijkaagu waxa inaad xuquuqul insaanka nagala hadasho dad badan oo xaga fadhiyana definition baan ka haysan xuquuqul insaanka marka maxaad ugu definition gareyn lahayd ingiriisi waan ka yaabay baan ku dhaydo way iramada su'aasha labaad baa siirayaa gacanta la taago su'aasha labaad iramada gacanta la wada taago ninkan khamiiska buluuga yaraxiga midab kale malaha loo yaqaan kulay magacaygu waa Axmed Qani su'aashan idin weydiinaya waxay tahay dumarku Ilaahay ama islaamku xuquuqdoodii uu siiyay laakiin waaqicina Soomaaliyeed waliba Soomaalida dumarku xaqoodii ma haystaan marka xaqada leeyahay marka
waxa maqan waxa jirta waxa maqan islaamku xaq uu siiyay laakiin xaqii ay u siiyay baan inagu ayna siinin su'aasha isweydiinta waxa markaa ay tahay islaamkii waxa uu jawaabtu tahay in islaamkii lagu dhaqmo islaamkiina lagu ma dhaqmo waaqac ka waraysan qof waliba isaga isu madaxweynaha isaga isu maxaan ku raadoo hogaankiisu hay marka lahaayeen way qaateen inan baa su'aal haysamiya way in eegayna hablooda waxay ku support gareeyaan ama ay ku taageeraan quruxdooda markay soo bandhigayaan iyagoo qaaqaawan way support gareeyaan way taageeraan way bay culimadeena ugu taageeri waayeen ama ay ugu sheegi waayeen hablahooda inay xijaabku ugu qurux badan yahay وايه بسم الله الرحمن الرحيم قرطة waa mahadsantiin kulay waqti waa xilli dambe aad waa mahadsantiin su'aasha waxaan u maleynayaa inaan baa ugu horeyso malaha su'aal inaan weydiine waxay noo sheegtay in maaragtay in hablaha la dhiirigeliyo in hablaha la dhiirigeliyo marka de hablaha kullayeen dadku waxna waa dhalinyaro waxna waa waayeel marka dhalinyaradu da'maha nimka daahan dhalinyaraan hay laakiin waa laga yaabaa inaan waayeel noqdo marka de hadii inantii ama maaragtay la mustacaan qaababa jiri jirtay dhaqankeenii hore ama in de qofku reerkii inantii uu weydiisto ama uu si kala sameeyo imika de malaa wuxuu suuqa ku dhamaadaan marka de suuqaha laga daayo oo dhalinyaro suuqa ka daayaano sidii maaragtay macruufka ahayd ee wanaagsaneyd ee dhaqankeena ku jirtay hal maro oo sidaas dhiirigelin ha noqoto inankii waxa way xuquuq insaanka weydiiyay إلى حقوق الإنسان وفي عربي لابدوبا ودي وحقوق يا إنسان إسرائيلي مركا وحق قفك إنسان كيله تعريف كلام راها definitionist قاربا لقاهان وحي يهين إيو وح الله يسكوا فقي الله يسكوا معناه ومثلا نمك صلاة وكله الصلاة في عربي هان يا يغنى واحد هاي وادعو زوما لكن شرعا وحلو يغنى صلاة دي هيئات مخصوصة لو تكذا ماركتي مركا عربي هان وحي هيد لقوا ما تعرفين قاب كلا لو سمي حقوق الإنسان كوده ولا ما يرى يجوز فسرية وحقوق ذا آدمه مركا تعريف كلا definition كلا قارة وما باهنا إن أنت يقدم بسي وحوي إن ودي سي وحوي علماء محاول يرجلوا يعني هبلها إن حشاب كله وشوي نروح بدني هاي مشكلته معها وشيجسته يا كتاب لي هذا أيها الولد وما عرفتين وقرية بحامد الغزالي هذا علم الإسلام كم ده أيها الولد باله هذا وكتاب عجيبة قفك عربي قنها آخريه وحول هذا وحكم بلا محي أيها الولد النصيحة سهل والمشكل قبولها نصيحة سهل انتهي لكن محا هذاك إن لا أقبله قفك إنه أقبله ما ترى ذا تيلتها لي لا أبغى غلط لانكو هي سجدة واحد فرديا إن بدنوا كم يددت كي حوالي فرات كهاي قولك دارهم بهذه الأمور كعاب وسوي مدة شهور سوق الشيء فعن تعالى يا أخوان جستوينا نداقو انتهى صور الأسبوع هذا وقهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام كدب تقول حسن هذا لك ويلا قاضي نين مناسبات أنت نوقف فرديا نسودي يا جروبين ما هين بس رجع هالكم فرديا في كودي كهذا البال يقولي أبغانا العرس كشران خطرتي عاو واحد نشوفني برامج أذو قيمة بدن أو يسوي شراء لبا موضوع labaduba si gaar ah waxay u bartilmaameedsanayeen haweenka ragoo ka soo qayb galayaalun bay ahaayeen laakiin cid la hadlayay waxay ahayd haweenka ama hablaha runtii laba barnaamijyo xilligoodii taagan bay ahaayeen oo waqti xaadirkan waa labada ugu hadalhaynta badan marka la eego baraha bulshada se waxaan ka baqayaa wixii caawo dhan leedu shubayay inay dhinac ka dhaafaan amin gaaban eregeed gaaban intaas ka baxaya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته